sheekada filimkeena maanta waxay ku bilaabanaysaa gabadhan lagu magacaabo Aaji. Gabadhan dadka agtooda waxay ka tahay tirisha caan ah, laakiin xaqiiqadii waa waalida dhaqanta. Sideedana wax jaxin ma muujiso. Haddii afaaraheeda soo gasho khalaas way ka takhalusaysaa, exkeedana ay ka dhigaysaa. Waa gabar aad u khiyaano badan. Laakiin muuqaalahan waxaad u malaysaa gabar aad miskiin u ah. Markaan waxaan dib ugu laabanaynaa sanadka markuu 2016 oo sheekadeeda ay ka soo bilaabatay iyadoo ardayad ah. Waxaan arkaynaa markaan ardayda iskuulka ugu dabaaldegayso dhalashada macalimadooda. Laakiin dhacdo aan la filin ayaa meesha ka dhacayso. maxaa yeelay isla markaas macalimadda saaxiibkeed ayaa meesha soo galay dharbaxshay uu wajiga u gelinaya asigoo sawirna wajiga uu tooraayo kuna dhahay waxaan maxay yihiin macalimadda ninkan mar way iskuulsan rabeen haddaba sawiradan waxay muujinayaan iyadoo ninkan la baashaalayso online ayaan qof ku baahiyay social media dhacdadaas kadib iskuulka waxay ku qasbanaanayaan macalimadda inay shaqada ka cayriyaan oo iyadoo aad u murugaysan ay soo baxaysaa kadib meel ay ku kufaysaa markaas ayaa aajin meesha uu imaanayso ayada ku dhahaysa maclimad say tahay ma fiican tahay kadibna waxay ku leedahay hadiyadeed ma ka heshay maadaama iskuulka ay ugu faafisay in aan gabar xumo waxba haysan waalidiin aan lahayn hadiyad aan ku iibiyay ma hayn saas darteed hadiyad ay tan sidan kaaga dhigay oo ceebtada ayaan banaanka keenay macallimiinta markaan kaliya way eegaysa oo wax ay ka qaadi kartay gabadha ma lahan maadaama markii hore iyada ay faragashatay aajina markaan exkeeda koowaad ay ka dhigtay macallimadan isla markaas ay exteeda labaad meesha ka soo baxayso gabadhana waxa lagu magacaabaa Sonhee aajin iskuulka ay ku tartamaan natiijada imtixaanka isku mid ayay keeneen laakiin aajin ayaa koowaad gashay halka Sonhee labaad la siiyay arrinkaasna aad ay ugu careysanaysaa Sonhee kadibna macalimadda ay u tagaysaa kadibna weydiinaysaa sababta arrinka u dhacday macalimadda ay sheegaysaa in waqtiga uu hormartay aajin sida darteedna macalinka artiga uu koowaad ku siiyay isla markaas ayaa Sonhee waxay soo xasuusinaysaa dhowr maalin ka hor inay aragtay aajin oo la jirto macalinka artiga macalinka farshaxanka markaasoo ka shakaysa inay xiriir hoose ay leeyihiin markay damacday inay u gasho si runta u ogaato ayaa waxa ka hor istaagay wiilkan John Seo la yiraahdo oo ardayda galaaska kamid ah kadib meesha ka waday laakiin Sonhee maalintii xigtay waxay u tagaysaa aajin kadibna waxay weydiinaysaa maalintii hore waxay isla qabanayeen iyada iyo macalinka farshaxan iyo xiriirka ka dhaxeeyo laakiin aajin ayaa isla markii uu jawaabayso dadka adiga camal filmaanta iyo geerida oo dhaqsi ayaa laga takhalusa laakiin waxba ka walwalin tani waa nolosha dhabta ah dhibaato saas ma ku gaarayso waxaan aadka u yar Sonhee indha ayaa ka soo haray oo la yaabay gabadha in adeegeeda maalintii xigtay waxaan arkaynaa aajin oo la hambaliyana maadaama ay koowaad gashay iskuulka iyo sidoo kale John Seo isna qoraalka ku guuleystay isla markaas ay macalimaddu waxay soo jeedinaysaa John Seo iyo Sonhee inay isla diyaariyaan tartan ku saabsan fikrad isweydaarsi laakiin silma falan ay John Seo booskiisa u banaynay aajin kuna dhahay iyada ayaa u baneeyay idana way aqbalaysaa arrinkan Sonhee aad u xanaajinayo xiisada markay soo dhamaato Sonhee hooyadeed lacagta leh ayaa u imaanayso soo doonayso isla markaas iyadoo careysan ay u sheegaysaa arrinka dhacay laakiin inta uu dhameystirin hooyadeedu ay ogtahay wax iskuulka ka socdo hooyadeedna dadka iskuulka lacag ku tabarucay ka mid tahay sidaa darteed macallimiinta wax walba dhaw ay u sheegaa maamadii ayaana ku dhahaysa lacag badan ayaa iskuulka iga baxday sidaa darteed si fudud ayaan gabadhan shaqadeeda u kala tuuraya ka cabsan ay ku leedahay gabadheeda idoo soo sabayso isla habeenkaas waxaan arkaynaa John Seo oo aajin ka caawinaya waxbarashada isla markaas ayaa Sonhee soo wacayso inay isarkaan ayaa ka codsanaysa uuna ka diidayaa isla markaas ayaa aajin waxay ku arkaysaa buugiisa warqad ay idoo soo gelisay Sonhee warqaduna waa warqad jacayl halka aajin ay ku dhahayso warqadan kama jawaabayso asugu wuxuu leeyahay adiga ka jawaab subaxdii xigta aajin markay iskuulka timaado ayaa ardayda galaaska waxay u sheegayaan in iskuulka dham laga warhayo sheeko ah inay agoon tahay xirada agoontan ku soo kortay oo gabar iska duruufaysan oo waxba haysan ay tahay hantaas iskuulka ka socotana Sonhee ay faafisay arrinkan oo aajin gelinaya xusuus aad u qalafsan oo yaraanteeda ah hooyadeed cabtooyda ayaa ku xadgudbi jirtay si xun dhibaatay jirtay Sonhee sababtay sida u sameysana waa aajin inay ka saarto tiimka ay wax isla diyaarinayeen laakiin aajin ayaa si degan arrinka u xalinayso warqadii jaceylka John Seo u dartanay way u keenaysaa iyadoo jawaab ugu dhigayso kuna dhahayso John Seo ee warqadan ii soo dhiibay warqada markay fiirsana waxa ku qoran ma ka baqaysaa inay murug u dhimato markaan waxaan arkaynaa aajin oo laga saarayo tiimkii dooda diyaarinayay kadib markii awood loo adeegsaday aajin idan weerar celis ay sameynaysa oo online ay wax ku baahinaysa Sonhee hooyadeed in lacag ku bixiso si gabadheeda programka lagu habeeyo sida daraadeed iskuulka wuxuu ku qasbanaanay programka dhim la kansalo dhacdadaas kadib ayaa Sonhee aajin la kulmaysa kadibna waxay bilaabaysaa inay ku jeesto waxayna ku leedahay xataa bariiska aan cunto oo lagu soo kori lacag oo aabahaysa daqaysta ayaa lagu baxshay markaas ayaa aniga la tartamaysaa kadibna aajin waxay ku jaabaysaa waa ku mahadsantihiin markaas ayay Sonhee wax isku fiirinaysaa farta warqada ay u keento ku qoran iyo farta aajin waxayna halka ka xaqaysanaysaa in isku mid yihiin arrinkan aad ugu sii careysiinayo mar kale kadibna aajin oo suulida ka soo baxaysa ay baaldi biyo wajiga u shubaysaa ayadoo ku dhahaysa maxaa isku malaysa marka afaarihiga qof camal u soo galayo isla markaas aajin waxay ku soo laabanaysaa galaaska iyadoo biyo ka da'ayaan markaas ayaa John Seo soo boodaya kadibna qabanayo asigoo la cararaya qaybta caafimaadka waxay sidoo kale kulmayaan wiil kale oo lagu magacaabo J.O. ee asxaab yihiin aajin wiilkan waxay isku barteen maalmaha kamid ah asigoo galaaska wax ka hadaya ay aragtay kadibna wuxuu weydiiyay waxay doonayso laakiin waxay u sheegaysaa in alaab doonayn ay qof ay doonayso ay isticmaasho haddii ay u baahatan ay soo wici doonto waqtigaas wixii ka dambeeyay message ku wada xiriir jireen wax walala waxay u baahato uu sameey jiriyay balse maalmaha kamid ah ardayda mid kamid ah asigoo ka cararayo galaaska dhexdiisa ee taleefanka ugu dhacayo Sonhee ayaana taleefankiisa gacanta ku dhigayso marka waxaan arkaynaa aajin iyo J.O. meel luuq ku kulmayaan
kadibna hab ayay siinaysaa waxaan arkaynaa sidoo kale Sunny inay meesha ku gambaneed ay daawanaysay laakiin nasiib wanaag taleefka ay iska soo hilmaantay oo ma sawiri karto markaan sidoo kale waxaan arkaynaa Jon Snow inuu meel sare ka fiirsanayo oo u jeedo waxa meesha ka dhacayo waxaan halkaan naga cad Ajin inay labada wiil isticmaalayso ina aad ugu xeerdhay sidii wiilasha loo isticmaalo si ay cadawgeeda ugu la dagaasho xilliga qadada ardayda ay cunayeen Ajin ay meesha fadhido ardayda la caqlaqaynayso ayaa Sunny wiilkeeda waxay ku shubaysaa cabitaan laakiin Ajin waxba oran mayso oo iska baxaysaa laakiin Sunny meesha ku sinaamayso oo marka la yeesho daba kacaysaa maadaama taleefkii JO ay hayso kadibna taleefkiisa ay ka soo wacaysaa waxayna u sheegaysaa runtii inay banaanka soo dhigi doonto wax alaala wuxuu ay joog xadanay iyada ay ka dambayso ardayda dhammaan ay u sheegayso iyo xataa macallimiinta laakiin Ajin oo hadlayna ayaa iska baxaysa maadaama ay u jeeday Jon Snow inuu meesha ka dhawaa isla markaas ay Jon Snow wacayo Sunny kadibna wuxuu bilaabay inuu raali geliyo una sheegay sidii inuu jeceshay inuu asigana u jecel yahay uu doonayo waqti xaadirkan in xiriirkooda bilaabaan gabadhan iska dhaafto shuruudda kaliya uu ka doonayo in gabadhan ka leexato ay tahay Jon Snow arkan wuxuu u dan leeyahay inuu gabadhan ku rido siraqda ay dhigayso Ajin ugu dambeynna meel ayuu ku balaminayaa oo qol ayuu u imaw leeyahay qolka markay soo aadana qolka waxa uu soo horeeyay Ajin oo la kulmayso macalinka farshaxanka kadibna gacantiisa qabanayso qorshaheedan wuxuu yahay Sunny inuu malayso ninka in xiriir leeyihiin dhan kale JO wuxuu furayaa qaaradda Sunny kadibna wax alaala wuxuu iskuulka ka xaday ayuu gelinayaa meeshaasi isla markaas ay ardayda waxa lagu soo faafeenay xan ah Sunny inay iskuulka wax alaala wixii laga xaday ida xaddo ardayda sidoo kale waxay ogaanayeen in galaas kaligeed joogtay ida uu soo horeysay marka la weydiiyay sida galaas kaligeed u joogtana waxay ku leedahay galaaska furnayaa iimayl laakiin wiilka furaha ayaa leeyahay waan xiray galaaska oo waa inuu xirnaa kadibna gabadhii ay weydiisay in alaabteeda xaday in kale maadaama alaab ay ka maqneed oo telefoon iyo wax la mid ah ugu dambeyn waxa la isku raacay sanduuqeeda in la furo JO oo qorshaha ka dambeeyay ayaa amaana kadibna qaanadeeda furaayo markii la furana alaabta dhammaan ayaa laga soo bixinayaa ayadoo careysan ay waxay ku leedahay Ajin ayaa waxaan dhammaan ka dambeysay Ajin macalinka farshaxanka ay xiriir leeyihiin isla markaas ay macluumaadda careysan rarbaaxayso maadaama macalinka farshaxanka ay saaxiibay yihiin Ajin inuu caawinayo ay ka warqabtay markaas ay waxay xaqsanaysaa in Ajin sharaqdeeda ku dhacday marka ma arkaynaa Ajin iyo kulmayaan kadibna waxay ku leedahay familkii ay lacag leh waxaana ay u sameysay in waxba iga dhibaan haw malaynin oo si dhaqsi ayaa ugu soo kabsanaya laakiin Ajin ayaa u sheegaysa macluumaadii iskuulka laga ciirinayay qofka baxraysa inay iyada tahay sidoo kale qofka ay xiriirka hoose la sameysay inay isla aabaheed yahay oo Sunny aabaheed iyo macluumaadaas ay xiriir hoose sameeyeen marna aabaheed shaqada laga soo ciiri doono lacagtiisana halkaas ay ku baabi'i doonto waxayna ku leedahay aniga hooyaday oo dhimanaysa ayaa caawin i warsatay kadibna waa ag maray maxaa aday camal ila naqanaysa waxaan halkan ka ogaanaynaa hooyaday cabtooyda ee inay aabaheed isla aabaheed u dilay kadib markuu jaranjaro ka tuuray dabadeed markay u tagtana hooyadeed ay caawin warsatay in ambalaas u wacdo kadibna lugta ay ugu dhiganayd ee ka jiidatay kadibna ay ag martay ka tagtay markan Sunny waxay ogaatay qofkay farax la gashay inay qof waalida dhaqanta tahay ay tahay shalayta inay ka taagan tahay waqti xaadirkan isla maalintii xigta waxaa arkaynaa Ajin oo hayso buug xuquuq qorka ee Sunny waxayna buugan ka ogaanaysaa sidii ardayda u kala qaybisay sidii waxay ka aaminsan tahay ardayda qaar gabdhaha qayb kamid ayay waxay gaarsiisay heerka D ay u jeeday inay istaahilin xataa in la fadhiisto ma la hadlo qaybna waxay ka dhigtay B oo ayagana sidoo kale agteeda wax macnaa kale hayn iyo qayb ay ka dhigatay kuwaas ay danaha ay doonaysa ay ku fushato Ajin oo markaan ka fikiraysa qaabkay buugan soo bandhigi lahayd ardayda inuu tusi lahayd ayaa taleefka laga soo wacay kadibna waxa loo sheegay aabaheed inuu galaaska joogo oo iskuulka ka dhex raadinayo isla markaasna iskuulka ay soo cararaysa Jon Snow iyo Ajin hal mar ay isla imaanayaan isla goobta markaas ay isla ma filaan Jon Snow wuxuu ku leeyahay aabo halka Ajin ay isqarinayso adaga muuqaalkiisana in aad u xun ayuu eg yahay waxaana sidoo kale halkan ka ogaanaynaa Jon Snow hooyadiis iyo Ajin aabaheed in iska gaari jireen kadib markuu Ajin hooyadeed ka takhalusay intuu soo waday guriga Jon Snow iyo keenay sidaas ay Ajin iyo Jon Snow isku barteen xiriirkooda qotada dheerna halkaas ay ku soo bilowday Ajin buugi ay meesha ku tuuraysa isla markaasna ardayda meesha ka qaaday arkayaan Jon Snow marka odaga ay soo wadaya kadibna lacag ay u soo bixinaya sidoo kale markaan waxaan arkaynaa naagta la yiraahdo Mary waana CEO kamariga filmaanta duubo waxayna markaan ka helaysaa Ajin muuqaalkeeda iyo quruxdeeda ayadoona ay sidii gabadhan sheekadeeda ku soo darto inay sheekadeeda u kala kacayso horumarna sameynayso Jon Snow markaan odaga wuxuu xushka ay lacagta siinaya asigoo ku dhahay iskuulka iyo gabadhan agteeda ma soo agdhawaa kartid lacagtaana qaado haddii xataa xanuun u dhimanayso gabadhaada soo wicinayo ku leeyahay asigoo ku dhahay ma adiga iga hor istaagi karta gabadhayda inaan la kulmo aniga gabadhayda xiriirkeedan ku go'aymayna adiga dhaxda kaliya kadibna Jon Snow ayaa ku dhahay lacagta haaf kaliya ayaan ku siiyay haaf kalena waxay leeyahay gabadha markay qalin jibiso adiga u imaaneen laakiin odaga ay ku jawaabay gabadhii gabar qurux badan weeyaan haddii aan ta wada bararka aan ka gado lacag aad u fara badan ayaan ka helayaa waxaan arkaynaa sidoo kale Ajin inay gadaashooda fadhiday halka hadalkoodan dhageysanaysay aabaheed wuxuushka ayaan ku dhahay is aragtay dambe markaan kadibna Mary ayaa Ajin u imaanaysa waxayna u sheegaysaa kamariga ay ka socoto ayada ku dhahays ma doonaysa inay caan naqato laakiin Ajin ayaa ka soo horjeesay arrinkaasi koon dhahays ma doonay waxyaabo noocaas inaan sameeyaan lagama yaabo waan isaga tagaysaa dhankan kale JO aabihiisa ayaa arkaynaa inuu daroogo iska soo badi kadibna uu qaato wiilkiisa inuu shaydaan ku dhex jiro midi ayuu soo qaadaya si uu u dilo JO ayaa markaas soo gaaray goobta asigoo isku dayay inuu ka celiyo kadibna sidii sil ah ayuu ku dilaya aabihiisa
kadibna gabadhan waalida dhaqantay aajin ayuu soo wacaya asigoo tala ka doonayo wuxuuna u sheegayaa inuu ka takhaluso aabihiis dhibka badnaa kadibna waxay diinaysaa wax marqaatiimaa joog markaa dilaysay laakiin wuxuu ugu jawaabayaa inuu booliiska saldhigga hortiisa taagan yahay uuna doonaya inuu isdhiibo waxaan sameeyay kama shalaaya ayuu ku leeyahay markaas ayay ku leedahay wax qof ka shalaysan iska dhig oo aad ugu murugaysan si dadka kale ku calool jilcaan doqos inta xamaha ka walwalin ay ku leedahay maxaa yeelay wuxuu doonayay inuu dhulku kala galo ayuu ahaa waan iska reebtay kaliya ka fikir wax mustaqbalka ugu dhici doono kadibna qof la yaab leh ayaa tahay uu ku leeyahay laakiin waa mahadsantahay ayuu ku leeyahay isagoo dhiirigelin ka qaada hadalkeeda dhanka kale waxaan arkaynaa gabdhihii ardayda ahay oo garaacayaan Sunhee maadaama buuggii aajin ay turtay arkeen aadna ugu caroodeen arrinka ay ku qortay buugga lacag ayaynu soo taagaysaa waxayna ku leeyihiin lacag ku badbaadi mayso waqti xaadirkaani kadibna si xum ayay u garaacayaan ugu dambeyn Sunhee waxay ku qasbanaanaysaa iskuulka inay bedelato maadaama halkan ay ku noolaan karin aajin Sunhee sidaan ay ugu takhalusto waqti xaadirkan aajina markaa waxay dalbatay jaamacadda ugu sarreysay sharciga lagu barto waddanka jaamacaddan isla markii way soo aqbashay iyadii John Cena aad ay ugu farxayaan kadibna way dabaaldegayaan jawabna markaa waxaan arkaynaa maxkamadda oo ku xukumaysa 4 sano halka John Cena awoowis uu tagay kadibna lacag uu ku codsanayo deyn ah maadaama lacagta tuwishinka ee jaamacadda aajina inay haysanin asiga uu rabo inuu soo deemiyo hatta lacag dul saara ayuu ku leeyahay waa bixinayaa intaba awoowis markuu weydiiyay lacagta sidoo ku godayana wuxuu sheegay shaqo baahta qadaam inuu shaqay doono laakiin awoowis ayuu ku dhahay iska dhaaf aniga waa ku siinaya lacagta laakiin shuruud ayaan wataa Japan ayaa u socda arrimo caafimaad u socdo marka waa inay raacdaa gacan yarihiina aan qataa sida ay lacagta ku gudi kartaa ayuu ku leeyahay John Cena isla markiina uu ku ogolaanaya arrinkan maadaama lacagta uu u baahan yahay kadibna lacagta ay soo qaadaya aajin ayuu keenayaa aajin ma doonaysa lacagta inay qaadato laakiin way ku qasbantahay inay qaadato meel kale wax ka helaysa ma jiraan kadibna waxay weydiinaysaa lacagta in free lagu soo siin wax laga codsaday ay weydiinaysaa wuxuuna u sheegayaa inuu duqa weydiistay inuu raaco aajin aabaheed John Cena hooyadiis ayuu tagayaa kadibna wuxuu weydiinayaa aajin meeshay degan tahay asagoo u bootanayo wiilkeeda ugu dambeyn way u sheegaysaa aajin markaan gurigeeda ay soo galaysaa isla markiina waxay arkaysaa aabaheed uu soo horreeyay guriga dhex fadho isla markiina wuxuu bilaabay jeebkeeda inuu baro lacag ka raadiyo lacagta ay tuwishinka jaamacadda iska bixi rabtay inuu ku arkay iyadoo jeeb ku wada way isku dayaysaa inay iska celiso laakiin maadaama uu ku xog badan yahay aad uu garaacaya kadibna ugu dambeyn lacagta ayuu ka qaadanayaa iyadoo sakarada ayuu meesha ka tagayaa marka waxaan arkaynaa aajin oo isbitaalka jiifto John Cena la jiro waxayna u sheegaysaa lacagta dhammaan inuu odayga ku tagay waxayna weydiinaysaa inta maalin ay meesha jiifto wuxuuna u sheegayaa 4 maalin inay jiifto ugu dambeyn jaamacadda ay wacayaan waxaana loo sheegayaa waqtiga loogu talagalay inay timaado inay maqneed booskeedana qof kale lagu bedelay gabadhan markaa iyadoo aad u niyad jabsanay iska soo baxaysa markaana waxay diirad u saaran aabaheed sidii ex ugu dhigi lahayd uguna takhalusi lahayd ayagoo markaa wadada iska soo socda ayaa indhaheeda waxay ku dhacayaan ninkan lagu magacaabo Joy oo ninkan tuuga raacdaysanayo waxayna ka helaysaa arrimaha dadka kale sida uu faragashanayo oo jecel yahay dadka inuu caawiyo qorshaha ku soo dhacna markaa waa ninkan inay isticmaashaa aabaheed sidii uu takhalusi lahayd marka waxaan arkaynaa aajin oo shaqo ka codsanayso cafeteria uu Joy leeyahay maadaama gabadhan muuqaalkay gabar aad u qurxoon ay tahay hore ayaa shaqada laga siinaya oo hore ka helaysaa kadibna xafraantii magaalada degneed dhammaan ayaa isku imaanaya maqaayadii maadaama xabaddan shidan ay joogto nin walba wuxuu doonayaa inuu barto xarfaantan waxay weydiinaysaa inay saaxiib leedahay in kale ayadoo u sheegaysa inay saaxiib leedahay qof ayaana sawir hoose ka qaadaya kadibna internetka ku baahinayo internetka ayna caan ka naqanaysaa cafeteriana mid caan ayuu noqonaya oo magaalada laga jecel yahay dhalinyarada dhammaanna ay soo aadaan marka sawirka internetka laga tusana waxba oo khatar u qaadan mayso waxayna ku leedahay cafeteriga kastan badan ayaana omaanaya ka leexo laakiin lama socoto caldhereeri inuu internetka ka arkay maadaama caldhereeri kartiyo gabdho kula hadla u lahayn niyadiisa waxa ku programsan kaliya inuu gabdhaha kufsado haddana waqti xaadirkan gabadhan ayaa target u ah markaana aajin ayaa wuxuu wiilka la shaqeeyaa u sheegayo booskooda oo ah Joy inuu ciyaaryahan baseball qatar ahaa jiray hal mar buudka ku dhuftan ciyaarta isku dhamaa jirtay dhaawac soo gaar dartiisna uu ciyaarta u fadhiistay ninkan sheekada isku sheegaya sheekada iska caadi oo u malaya laakiin gabadhan waxay u qaadanaysaa qaabkii qorshaheeda dilka u sameey lahayd qorshe aad u fiican ayaa meeshaas ugu soo baxayo maalin kamid cafeteriga waxa soo wacay Aldaredo waxaan ka qabanay Joy kadibna wuxuu leeyahay gabadhan telefoon numberkeeda laakiin uu diiday Joy inuu siiyo kadibna telefoon nooga baxay ku leeyahay laakiin ninka ma qoosanayo oo imaanaya cafeteriga asigoo weydiinaya aajin inay joogtay in kale haddaba calayaasha iga raali naqda Aldaredo ninkan aniga isaga baxsaday ninkan wuxuu ogaanay aajin inay mar dhow baxday dabadna wuxuu bilaabay inuu daba raaco isla markaasna meel luuq ayuu ku qabanaya asigoo doonaya inuu faraxumeeyo isla markaas ay John Cena gabadhan inuu la kulmo doonaya ayaa soo wacayo asigoo goobta kaga dhawaa markaas ay warka taraafikada meel ka dhacayo markuu soo qaadana wuxuu aajin oo ninkan iska celinayso aajin ninkan waxay rabtay inay ka takhalusto sidii sabaa kadibna uu ku celinaya markaas iyadoo caraysan waxay ku leedahay muxuu ugu sameeyay ma garanaysaa aajin waxaa moodaa wiilkan inay sida amrayso sida qof ay farta ku wacayso kadibna su'aal ay weydiinaysaa dartay maxaa u sameey kartaa ay ku leedahay wax walba dartaa u sameey karaa laakiin qof uma dili karo ayuu ku leeyahay aajin jawaabtiisa markii ninkan ku qanacday oo waxa ka ogaatay dii doonaysa qof inuu u dilo inuu dilaynin kadibna dhereeriga oo meesha ku dhiig baxay ayuu tagayaa wuxuu u sheegayaa inuu cidna u sheegin wuxuu meeshan ku arkay afkiisana u xiro kadibna ambalaas ayuu wacayaa dhereeriguna wuxuu ballan ku qaaday inuu cidna u sheegin sidoo kale booliiska ayuu wacayaa aajina markaan waxaan arkay inay guriga imaanayso kadibna waxay u imaanaysaa lacag meel gashato aabaheed oo haddana xadaayo aabaheed deen badan ayaa lagu leeyahay maadaama khamaarka uu aad u cayaaro markaan wuxuu qorsheynayaa gabadhiis inuu iibiyo qolagan giistaraan uu ka iibiyo si gabadhiis loo iibiyo ninkaan nin naxay ma ahan aajina markay maqashay erayada uu telefoon kula hadlayo qofka markaan waxay go'aansanaysaa si nafsadeeda u badbaadiso odaga inay ka takhalusto aajina markaan waxay isku dayaysaa inay meesha ka tuurto laakiin duq uu fahansan yahay uu qabanayaa kadibna wuxuu ku leeyahay aniga meesha iga tuuri rabta soo maaha isagoo xaqeeda siinayo markaasuu ku leeyahay hadda bisha soo socoto waa inaad bixisaa
lacagtan laba jibaarkeeda ajina markaa iska fadhiisanaya iyadoo iska qoslayso mana garanaysa bahalkan abaheeda si ay ugu badbaado maalintii xigta Johnson iyo abaheed ayuu daba raacayaa wuxuuna arkayaa isagoo lacag ka soo baxsanaya tubada dabdamiyaha kadibna meeshaas kaamira gelinayo isla markaa ka tago nin ayaa imanaya kaamiradan kala baxayo ajina abaheed kaamirooyin lama gado ee fiidiyo dadka si hoos loogu duubo ayuu ka faa'iidaa lacagna ka raadiyaa Johnson waxaana markii dhacayn telefonkiisa ay ku duubanayay si uu cadaan ugu reebto odagaani isla markaas ajina abaheed wuxuu arkayaa Johnson inuu fiidiyo ka duubanayo meeshana taagan yahay isla markiina wuxuu bilaabay inuu ka cararo goobta maadaama sirtiisa ay fashilantay ugu dambeyn uu ku soo daba cararayaa qabaar isdagaalayeen kadibna uu qabanayaa Johnson markaan si uu isdhahay dhagax madaxa u gelisay gabadhan u badbaado haddana uu iscelinayaa waxaana goobta meelaha ka fogeen ka daawanaya ajin waxaana halkaan ka xaqiiqsatay wiilkan inuu darteed wax u dili karin ragga sida doonto isticmaali kartana uu haynin balse isla markaas booliska ayaa maanay xirayay ninkaan saldhigga booliska markii galigay wuxuu isku dayay inuu taleefankiisa soo baxsho si uu cadeynta u tusiyo laakiin taleefankiisa ayuu weynayaa markuu meesha joogay ayuu taleefankiisa ka dhacay kadibna ajin ayaa meesha ka qaadatay isla markaasna cadeynta uu ka duubay ayay tirtirtay Johnson sidaaba ayuu baxar ku galay oo ninka inuu dil rabo ayaa loo xirayaa ajin abaheed ayay la safanaysaa kadibna intay u timaad ayay ku leedahay kala hayaan ku soo maha arrintaani adiga sida doonaysa inaad wax u xalliso kaliya odagan waa la xirayaa kadibna waa la soo deynaya laakiin ani fiina witin aska xalay ayaan doonaya ay ku leedahay inuu faarihiga ka bax aji markii booliska ka soo laabatay gurigeeda timaado isla markaas waxay bilaabaysaa inay make up marsto iyadoo iska dhigaysa inay dhaawacan tahay camal oo la soo jirdilay sharootoyin isku dhijinaysa waxayna maalinka qorsheynaysaa Joy daacnimadiisa inay ka faa'iideysto kadibna abaheeda sida ugu takhalusto maalinta xigta markay ka fateeriga timaado booskada ayaa weydiinaya dhaawaca qofka u geystay ajin isla markii been ayay u sheegaysa waxayna ku leedahay nin ayaa nafta keenay wuxuu doonaya inuu kufsado ninkaas ayaa dhaawaca ii geystay ay ku leedahay booliskana inuu sheegtay laakiin inkastoo booliska u sheegtay wili ay ka cabsanayso inuu markaa weerar ku soo qaado habeenkaas xaafadeed markii soo aadis Joy ayaa soo wadaayo kadibna gurigeeda ayuu keenayaa wuxuuna siinayaa caag sprayga indhaha dadka loogu buufiy ajin aad ay u baahnayd caagan camal isla markii guriga soo gaaraan ayaa dhareero guriga soo baxaya asigoo ordaayo kadibna Joy ayaa ka daba cararayo wuxuuna u sheegay guriga inay albaabka xirat buudka baseballkan ay qabsato Joy ninkii uu ka baxsanayo markuu soo laabtay wuxuu ku leeyahay guriga ma seexan kartid dhib male saaxiibtay ayaa waan saaxiibtay aan la seexanay ay ku leedahay maalintii xigta abaheed ay message u diraysaa iyadoo u sheegaysa inuu lacagta soo doonto 2 saac haweenimo ayna ballaminaysa gurigan waa isku dhaxyaacinaysaa habeenkaas waxay rajeynaysaa booskada inuu soo wadaay Joy laakiin Joy wuxuu ku leeyahay gurigii joog oo gurigii ku hiyay cawada gaari taxi ayuu saaraya si gurigiisa loo geeyo laakiin taxiga ayaa waxa ka codsanaysaa gurigeeda inuu u qaado inuu alaab ka soo qaadato isla markaasna Joy message ay u diraysaa inay guriga alaab ka soo qaadanayso qorshaheeduna wuxuu yahay inay isla habeenka soo gabagabayso barnaamijka dhan maadaama 2 saac haweenimo ay ballamisay isla markaas abaheed ay guriga soo gaaray waxayna ku leedahay hadii ayaan kugu tala galay waana koofiga xariifka dheereer uu watay laakiin ilaa gashay ay ku leedahay ku qasbaysaa inuu gashto halka asiga uuna doonaynin inuu gashto kaliya lacagtiisa inuu qaato rabaa markaas ay iska dhigaysaa wax lacag soo qaaday inuu keenaysaa laakiin markuu fiiriyay wuxuu ka arkay inay xansha badan meesha ku jirto isla markaasna wuxuu bilaabay inuu garaaco si xun ayuu u garaacaya iyadoo intuu garaacay isla markii ay wacayso Joyna taleefanka ayuu ka dhigaysanaya wax meesha ka dhacayo gurigeeda xagiisa ayuu soo aadaya Johnson sidoo kale waa la soo daayay asigana gurigeeda ayuu soo cararayaa kadib markuu ajin soo waco taleefankeeda uu heli waayay ajina markaa waxay u dhaxaysaa nolol iyo geeri booskana mar kale ayuu isku soo celinaya taleefankeeda ma helayo taleefanka isla markaas ayuu booliska wacaya laakiin ciwaankeeda saxda ma yaqaano ajina markaa abaheed waxay u jeedaa inuu go'aansaday inuu ka takhaluso iyada dhanba si waqti dheeraad ay waxay ku leedahay musqusha ay ku jirtaa lacagta markaas ayuu doonanayaa kadibna botolka sprayga ay soo qaadanaysa isla markuu soo noqonaya wajh indhaha ay ugu shubaysaa laakiin wax yar ka bacdi uu soo noqonayaa uu ka raysanayaa kadibna garaaciisa ayuu meesha kasii bilaabaya asigoo markaan ka takhaluso rabaa Joy guriga soo galayo isla markuu arko ajin oo laga takhalusayna buudka baseballka ayuu soo qabsanaya kadibna madaxa ayuu gelinaya duqa ajina abaheed dhulka ayuu ku dhacaya kadibna Joy isku argagaxaya waxaan isku dayay inuu booliska waco laakiin waxay u sheegaysaa inuu abaheed yahay oo iska baxo hadii booliska uu ku imaadana dhibaato gaaraysa asiga la xirayo inta kale ay dhameystirayso sidaas ayuu goobta ugu cararaya markuu ka baxana iyada dhameystiraysa inuu nool yahay aragto kadibna koofiga ayay soo bixinaysaa intay jarjartay musqusha ku falaashaysaa gabadha waa gabar aad u khiyaano badan isla markaas booliska ay goobta soo gaarayo ugu dambeyn waxaan arkaynaa Joy oo la soo xirayo ajina qorsheeda sidaas ayuu ahaa in dilka abaheed Joy loo xiro isla markiina booliska ay u sheegaysaa inuu abaheed Joy dilay Joyna wuxuu u sheegay inuu madaxa ugu dhuftay inuu nin koofi wato inuu maleynay gabadha inuu kufsanayo dil rabana sida darteed asagoo gabadha badbaadinayo arrinka ku sameeyay laakiin iyadu waxay u sheegaysaa inay wax koofi abaheed ku arkeen هون حرني wax koofiya markuu abaheed wax ku dhuftana ay soo xeysana ninkan uu xanaaq kadibna uu geedkas madax u galshay sidana abaheed uu ku dhintay Joyna arrinkan dhan booliska markay u sheegaan wuxuu halka ka dareemay tool isticmaal inuu naqday ajin goobta ka tag markay dhaheysana oo uu maleeyay inay naxariis uu ka wado laakiin inay shaqooleys hadda ay u dareemay laakiin booliska ay markaa waxay ogaanayaan ajin abaheed 3 saac habeenimo inuu dhintay laakiin iyada ay soo wacday 9 saac habeenimo marka ajin la weydiiyana waxay u sheegaysaa inay suxsanay 9 saac habeenimo ay soo naxday isla markaasna booliska ay soo wacday isla markaas ay booliska la soo wacay waxaana soo wacay Germanka agency doonayay Joy inay isla shaqeeyaan ajin isla markii soo xasuusanaysa ninkaasi markuu Joy la kulmay maadaama Joy oo ahay cayayahan caan ah in doonaya marka la isla shaqeeyaan kadibna waxay dhageysanaysaa booliska waxay ku wada hadlayaan ninkaasi kadibna waxay u sheegayaan in gabadhan abaheed nin oo stupid u ah gabadhan oo garaaci jir
sida daraadeed gabadhan ay doonaysa ninkan aabaheed inay ka takhalusto joyna wax luga uu ku lahaynin kiiskin sida loo soo xiray iyo gabadhan aabaheed inay dishan laga dhigo laakiin sheekadan dham intii sheegayeen aajin si hoose ay u duubaysa telefoon ay meesha dhigatay Johnson iyo asagana meesha ka dhawaa arrinka uu maqlayaa isla markaasna booliiska la lusay soo gaaray oo box lacag lagu soo riday aajin fiidiyoo ay ka duubanaysaa booliiska markaa wuxuu laabanaya guriga aajin si uu cadeemo aajin ugu soo helo suulida ayuu ka soo helayaa koofiga stuntiisa isla markaa aajin isbitaalka laga fasaxay baxis dhahiisa ayaa booliisku u maanay kadibna wuxuu xirayaa aabaheed inay dishay eedan aajin waxay la yaabantaa meesha wax ka qaldameen iyo qorshaha degta wax ka qasaayo lawyer company Joy u soo dirana qorshihiisu wuxuu yahay Joy laftiisa in dhibana yahay oo aajin ay qiyaantay sidaan lagu soo daa arrinkan dhamaan marka Joy loo sharaxo Joy wuxuu halka ka dareemayaa aajin xabsi la gelinayo mustaqbalkeeda damana uu dhamaaday aad ayuu u murugoonaya arrinkan wuxuu ku leeyahay lug ayaan ku leeyahay maxaa kaliya gabadhan loo ciqaabayaa arrinkaas Jermanka iyo lawyer ka xanaajinayso laakiin ugu dambeyn lawyerka booliiska ayuu la lush siinayaa si kiiskan loo soo gabagabay aajina booliiska ayaa su'aalo ku bilaabay waxaan la tusinayaa dunta laga soo helo meesha sidoo kale waxaa loo sheegayaa aabaheed in 3 mar budka madax loo galshay markaas ayaa la weydiinaya labada mar oo kale qofka u gelis maadaama Joy hal mar uu galshay u sheegtay laakiin aajina waxba u sheegi mayso isla markaas ay sargaalada booliiska meesha joogtay u weydiinaysaa inay mas'uusha aado maadaama la joogo waqtigeeda xeelka kadibna naagta markay soo wad ay waxay u daaraysaa waxyaabaha ay duubaysay oo cadeynaya booliiska inay la lush qaateen isla markaasna sargaalka booliiska ayaa baaritaan lagu bilaabay boxka lacagta lagu keenayo laga baadi goobaya baabuurkiisa laakiin waxa laga helayaa isagoo cabitaan ku jira maadaama ninkan sarkaalka uu xariif ahaa oo ku cabitaan noocaasna uu ka soo buuxsaday baabuurka isla markaana wuxuu bilaabayaa aajin inuu ku adkay isla markaas booliiska waxay bilaabayaan inay baaritaanka dib u ragalaan cafeteria in tagayaan si wiilka la shaqeynaya su'aal u weydiiyay wuxuuna u sheegay inuu jiray nin aajin daba kici jiray maalin uu ku arkay dukaanka iyagoo wada joogo dina booliiska dukaanka ay tagayaan waxay ka soo qaadanayaan CC kamerada marka fiidiyoga la fiirinayo waxa la arkay iyagoo isdhaafay kadibna alaab kala bedelanayo isla waqti xadiga Johnson ayaa booliiska imaanaya kadibna wuxuu qaranayaa aabaheed inuu asiga dilay wuxuuna ka sheekeynaya maalinta la soo daayay inuu aaday motelka gabadha aabaheed u deganaa booliiska isla markaa motelka ay tagaya ninka motelka iska lahana uu sheegaya maalinkaas ninka inuu maaday saxna ay tahay markaas ay uu sheegay inuu qorshihiisa ahaa kaniini hurdada inuu cabitaan ugu daro duqa laakiin qolka uu ka waayay kadibna guriga aajin uu aaday markuu tagana uu arkay labadooda oo meesha suuxsan markaasna baseballka intuu qaatay 2 mar oo madax u sii gali ilaa uu duqa ka dhinto isla markaasna booliiska sheekada ay aaminayaan aajin sida ay ku daynayaan kadibna waxay ogaanayaan ninkan inuu isku dhiibay gabadhan u badbaadiyay darteed waxaan uu sheegay in dhammaan ay ban yihiin Johnson wuxuu sheegay sax waay waxyaabaha qaar oo gurigeeda uu tagay markuu tagana wuxuu arkay iyadoo mar roog aabaheed ka takhalustay sheekada dhan uu fahmay si uu gabadhan u caawiyana wuxuu qorsheeyay inuu asiga dush iska saaro dambiga dham kadibna motelka ay u laabtay si cadeyn kale uu naqad laakiin sheekadaas dhan motelka ninka iska ayaa ka qasaayo markuu booliisku soo waco ku dhahay ninkan 7 saac iyo 20 daqiiqo ayuu yimi doona waqtigu dhinto waa 3 saac kadibna booliiska ay ku qabsanayeen uu been u sheegay aajin uu dambiilaan u badbaadiyay Johnson qorshihiisa inuu ka khasaaro doo arkay oo in ayuu la qaylinaya booliiska halkan waxa uu cadaatay gabadhan Joy inay u isticmaashay aabaheed inay disho hatta haddii iyada gacanteeda ku dili laakiin qorshaha dilka iyada ay ka isla markaas ayaa Miri shakadeeda ogaanayso waxayna la kulmaysaa aajin waxayna u sheegaysaa inay badbaadinayso sidoo kale Johnson ay badbaadinayso laakiin company-ga entertainment-iga ay soo gasho atirsha caanan ay noqoto iyadana la shaqaysato shuruudda kaliya ay ka doonaysana Johnson inuu xiriirka u jartay tahay aajinna markaa wadda kale uma furno way ka ogolaanaysaa ugu dambeyn ninkii booliiska ahay baritaan ayaa lagu naqaya lacagtii la luushkana lagu qabanaya maadaama naagta awoodda badan meesha ay soo gashay dambigina sida ay Joy dib madaxa looga saaraya aajin ay Johnson dambiga banaanka ay ka naqanaya waa la iska soo fasaxay aajin Johnson ay waxay u sheegaysaa in xiriirkooda halkan ku dhamaaday laba wadan ay kala maraan waqti xaadirkan asagoo kula talanay inay joogsato ayna ka tageen dambiyadan ay ku sii badan doonaan maalmaha kamidna ay ka shalay doonto laakiin kama ogolaanayso oo isaga tagaysa kadibna waxay soo galaysaa dhanka iyo jilink waxayna halka ka bilaabaysaa jilinkeed iyadoo dhammaan TV-da dhan qabsanayso Joyna xabsiga dhexdiisa ayuu maalin kasta ka fiirsanayaa gabadhan isagoo aad ugu murugo sida xooshnimada ay u qayaan waqti xaadirkan waxaan arkaynaa aajin oo ku socota rogacaas waxaana la socdaa tooraha caanka ee la jecel yahay Ingang ayagoo markaan labadooda la guddoonsiin raba bilada jilaayaalka ugu fiican markaas ayaa aajin kobaha u galaya dharka isla markaasna Ingang ayaa soo laabanaya asigana caawinayo dabeedna gacmaha ay isqabsanayaan wana soconayaan markaas ayaa sawir laga qaadaya sawirka ayaa wuxuu noqonayaa trending kaasoo baraha bulshada aad ugu faafa dadkana jeclaystaan dhacdadaas kadib Lina oo ah saaxiibtiisa hore Inha ayaa guriga u soo galayso kadibna markuu weydiiyay waxa meesha ka soo doonto waxay ku leedahay baasudku maxaa u bedelaysaa haddii aad doonayna guriga imaado atrishadan Lina aad ay u jeceshahay ninkan xiriirkooda inay dib u bilaaban ay doonaysaa kadibna waxay ku leedahay gacanta ay ka qabsato aajin aan ka dhaqay keen dabeedna waxay u sheegaysaa aajin inay qof caadi ahayn bal hal mar inay fiir ay ku leedahay qof caadi ahayn inay ahayn adiga ayaa ogaa doontay si walba gabadhan u baradeen Inha gabadhan xiriirkeeda ma doonayo maalinta xigta waxaa arkayna aajin oo isfan la wada jilaysa Lina dabeedna Lina aad ay u adkeynaysaa oo jilinka la wadi mayso aajin gabadhan sidee u dhaqmayso waxba ma ka qaban karto maadaama gabadha tirisho weyn oo la yaqaan ay tahay sheekada filimkana iyada ay wada directorkana uu jeeda labadan gabdhood inuu dagaal aad u kala xeeyo kadibna aajin ayuu la kulmay wuxuuna ka codsanayaa Lina inay raali geliso haddii arrinkaas dhicno showga la kansalna khasaaro weyn ay ku dhici doonaan halka aajin ay ku dhayso aniga xalli doona arrinkaasi Lina markaan gaarigeeda ay salaamanaysaa iyadoo wax dhahayso waxaan dhacayna aniga si kaas u sameeyay u malayaan dadkaani kadibna Mira ayaa arrinka gaaraya Mira careysan ayaa goobta soo gaarayso dabadeedna waxay bilaabaysaa Lina inay waabsato hadday istawsaysan inay fadaxeenayso qadkana ka tuurayso u sheegaysaa halka aajin si degan ay u daawanayso dood dhexmaraysa labadaani iyo sheekada meesha ka socoto kadibna caawideeda hayaan ayaa u sheegayso in arrinka dhowr mar dhacay gabadhan Lina ay aad u madax adag tahay mar walba isku dhacaan
waxayna u sheegaysaa qof walba meesha joogto Mira inay file ka hayso qofkiisa waa waalna faylkaas ay ku fadeexay doonto ajin halkan waxay ka ogaanaysaa fayl qatar in laga hayo lafteeda kuna saabsan dilka aabaheeda waxayna u sheegaysaa faylashaas in yaalin xafiiskeeda Mira xafiiskeeda khaaska kadibna Liina iyo Ajin waxay ku kulmayaan beauty salonka halka Liina isla markaa sheekadeeda ay bilaabayso inay ku dhahayso gabadhan daarka farxadan way ka tagtaa markaas ay Ajin u sheegayso in gaanga iyo inay meesha wada tagaan inay idana ka dambeeynin Mrs Mira ay ka dambeysay arrinkaasna waxba ay ka qaban karin saaxiibkeeda hore inay meesha isla tagaan sida daraadeed idina waxba isku xanaajin isla markaas ay waxay diinaysaa haddaba Mira faylka ay ka hayso oo isaan kugu canaadaysa maxay tahay halka Liina ay yaabayso isla maalinta John CEO meesha filimka lagu jilay ka agdhawa saaxiib bugna ku qabanayay ayaa wuxuu go'aansanaya inuu meesha imaado si uu Ajin u arko maadaama muddo ismoogaayay markaas ay Ajin iyo asiga meel fog iska fiirinaya laakiin isla markii hooyadiis ay amaanayso meesha ka wadayso sidoo kale silma filan ayaa Liina arkayso dhacdadani kadibna John CEO iyo hooyadiis ay daba kacaysa si waxay u sheekaysanayaan u dhageysato waxayna maqlaysaa iyadoo dhaysa Ajin maxaa ku daba dhigay halka ay ka dareemaysaa Ajin in kan xiriir hore ka dhaxeeyo waxaana soo baxaysa ninkan isticmaashay in Ajin cadaadi karto isla markaas ay bilaabaysaa John CEO in la xiriirto si xayisiin iskula sameeyaan iskula shaqeeyaan social media TV stationada soo muuqdaan isla markaas ay arkayna John CEO hooyadiis oo umaanayso company-ga Ajin joogtay Mira ayana kulmaysaa waxayna ku leedahay gabadhan ma arki karo ee TV-da waa ka saartaa gabadhan sareheeda badan aniga hayo waxayna u raacisinaysaa gabadhan inay gabar sharley tahay meel alaala meesha tagtana dad ku dhibaatayso laakiin Mira gabadhan mishiin lacag ay u tahay maadaama xidigaad cusub oo TV-da haystay tahay lacag fara badan u soo xarayso marka sheekada naagtan kuma socoto kadibna waxay ku leedahay anigoo gabadhan ka dacwada marka la yaan arkeen waan iska soo baxaysaa Ajina meesha ay taagneed sheekadii tartiib ay u dhageysanaysay Ajina marka iyadoo degan ay waxay ku jawaabaysaa magacii iyo awoodeeda waa inaan kor qaada si arrinka camal dib u dhicin mar kalena aan la kulmeen kadibna way soo baxaysaa Liina ay wadada kulmayaan Liina waxay ku leedahay familka xigtiba ka soo horjeeda haddaba nolol cajiib weeyaan laakiin Ajin ayaa ugu jawaabayso haddaba dabagalka igu haysataa sii wado dhibaato weyn kaliya ayaa igala kulmi doontaa kadibna Liina waxay bilaabaysaa inay la kulanto John CEO kadibna gacmaha intay isqabsadaan ay waxay leedahay cashayaan soo wada cashaynayna Ajina TV-ga ayay ku arkaysaa labadooda ayagoo sheekada aadiska wado Liina John CEO ayaa caawinaysaa buugiisa cusub si ay u xayeysiiso John CEO fursadan soo martuu ka faa'iideysanaya asigana iskama beedray karo uu ku raacaya Liina arrinkan Ajin ayay ku gubaysaa Ajina markaan hayaan waxay u sheegaysaa feelasha sirta Mira inay saarto miiskeeda ama qaarada miiska inay ku geliso Ajina markay waxay doonaysaa feelkaas inay gacanta ku dhigto dhanka kale waxa arkayna Liina oo message u soo dhacayo isla markaas ay John CEO waxay ku leedahay company iyo naqo alaba ayaan ka soo qaadanaya isla markaas ay arkayna Ajina oo idina sidoo kale company soo gaarayso isla markaas waxay bilaabaysaa xafiiska inay ka raxlayso feelkii laakiin Liina ayaa meesha u soo galayso maadaama qorshahan ay wax ka ogeed waxayna ku leedahay feelasha miyaa raadinaysaa Ajina markaa indha ayaa ka soo haray kadibna Liina ayaa soo daba raacaysaa Liina ayaa ku leedahay feelasha ayaa raadinaysaa soo ma feelkii hadda gacanta ku dhigto maxaa samee lahayd waa ay fadeexisay rabta soo maahan haddaba kiigii kaaga gacanta ayaan ku hayaa ay ku leedahay inaa ku cafiya darabta jilbaha dhulka dhigay kadibna itoog ayay leedahay kaliya sharafta iska hilmaan wax kale dhibaato kale ku gaaraysa ayay leedahay kadibna waxay bilaabaysaa inay dharbax u ka jiido Ajin ayaa isla markii ku jawaabaysa in gaag wuxuu kugu nacwa isaga jeedaa hadalkaas uu ka sii caraysiinayo Liina garaacida ay meesha ka sii wadaysaa halka Ajin ay waxba sameeyeen isla markaas ay John CEO power ka soo deganayo arrinka daawanay maadaama uu adkaysan karo Ajin ay wax gaaraan Ajin way arkaysaa waxaan la yaabanta sababta labadan isku raacayaan markaan waxaan arkayna xafladii kamariga la qabanayo in gaag ay depression ku soo booday kadibna wuxuu soo baxaya inuu kaniini soo cuno kaniiniga ayaana ka dhacayo isla markaas ay Ajin u maanis biyo u keenayso ayada ku dhaysmo biyo laan ba isticmaasha Liina markaan waxaan arkayna in John CEO keentay xafladda Ajina markay aragto way yaabaysaa isla markaasna waxay iska dhigaysaa in labadooda isbaraysa camal laakiin sheekada waxay u malaysaa Liina in ay raayay gabadha ka raayay isla markaas ayaa la tusinaya qofkii raayay oo isla markii fiidiyoga markii backing ku dharbaaxaysa ayaa darmayo iyo dhammaan sheekadii dhex martay halkan waxaan garan karnaa sababta Ajin gacan u qaadi weysay inay shirqool ay gabadhan u dhigaysay inay sumcadeeda galaafato Liina qorshahay wadatay Ajin ayaa qorshe ka daba keentay kadib markii ay tahayaan gacan yaradeeda inay Liina u shaqayso tiftifna u tahay ayaa markii ay waatay inay fashilantay ayaa Ajin wax walba u sheegtay kuna tiri feelasha miiska inay saariin markaa ku sheegay ayada ay ugu tiri u sheeg waxaasi Ajin qorshaha sidiis u waday ku leedahay laakiin waa ina fiideo iga duubtaa sidaas ayna fiideo u duubtay Ajin noloshan dadka caanka ee bahalada ah ayada ayaa ka balhalsan si meel la isaga saarna si wacan ay u taqaana kadibna markay iska hor imaadaan isla hadalka ay ku leedahay jilbaha dhulka dhigay kadibna bari haddii kale fiidiyogan ayaa warbaahinta u qaybin doonaa ayadoo markaan tusinaysa inay qof walba ka argudan karto haddaba ciyaartan waxaan la ciyaartii badbaadada laakiin dhibaato iyo filin ayaa meesha ugu soo baxayso kadib markay xafladdu ku arkay sarkaalkii lagu magacaabayay back ee kiiska aabaheed hayay wuxuuna isla markii bilaabayaan inuu ku rikaatayo sirta uu ka hayo ayagoo wada hadlaya ayaa Liina kor ka arkayso isla markaasna inuu sarkaal yahay ay ka ogaanaysaa sawir qaadaha bebraasiga maalintii xigtay sarkaalkii ayaa Ajin soo wacay kadibna meel ayuu ku balaminayaa laakiin waxay isku dayaysaa inay ka diido markaas ayuu sheegay inuu sirteeda banaanka soo dhigay soo fadeexad doono isla markiina way ka ogaanaysaa wixii aadaysaa meesha ku balamiyay ayadoo dharka bedelatay isqarinaysana kadibna waxay tagaysaa baar oo ku balamiyay baarka qolka ugu tilmaamay markay tagtana waxay arkaysaa daroogistayaal dhammaan meesha ay joogaan oo qolkan ay ku sugan yihiin dadka taroogada la tagtay laakiin sarkaalkana uu meesha u joogeen isla markaas ayuu soo wacay kadibna wuxuu u tilmaamayaa wiil jaakad koofi wato oo daroogistayaasha ka mid ah wuxuuna ku leeyahay muujeeda wiilkaasi aniga ayuu ula kulmay sidaas ayaan u galay laakiin adiga afaarihii ayaa soo gashay
sidaas iyo si ka daran ayaa ku dambeey doonto isla markaas iyadoo caraysan ayay kasoo baxaysaa qolkii markaas ay meesha waxay kula kulmaysaa Ingag oo ogaay meesha markay galaysay Ingagna wuu weydiinayaa kadibna qofka meesha ku balamiyay laakiin uu sheegay maadaama sirta ay qarinayso Ingagna adduunyada wuxuu neceb yahay qofka dadka daraagiistayaasha kadibna iga tagay wajigiisa tusinayo ku leeyahay halka Ajin ay aad uga caraysantaa sidoo sarkaalka oo dhaqmaayo laakiin Faras Ingag uma sheegayso isla markaas ay Johnson waxay ka codsanaysaa inuu u shaqaaleysiiyo baare sarkaalkan baag arrimihiisa khaaskana u soo ogaad isla markaasna uu shaqaaleysiinaya marka waxaan arkaynaa Jay oo xabsiga laga soo daayay asigana balse nasiib wanaag sarkaalkii baaraha ahaa ay saaxiib yihiin oo ninkii ayuu u tagayaa isla markaana ninkaas ayaa shaqada u soo bandhigaya inuu ninka sarkaalka baag u soo baaro Jay oo isla maalintii xigtay sarkaalka maqaaxi kula kulmaya isla markaana saxanka wata ayuu ku daadinaya inta uu ka tirtiraya taleefka ayuu u bedelayaa sarkaalkii baag ahna ma shakiinaya kadibna taleefkiisa oo loo bedelay intuu iska qaato iska baxaya isla markaana ninkan wuxuu bilaabaya inuu software ku shubo taleefkii wuuna ku guuleysanaya isla markaana sarkaalka ayaa soo laabanaya taleefkiisa ayuu siinaya kadibna wuxuu bilaabaya inuu dhageysto ninkan hadallada uu ku hadlaayo markaas ayuu halkaas wuxuu ka maqlayaa Ajin inay dil ku lug lahayd isla markaana wuxuu bilaabay Johnson inuu waco kana wareysto arrinkaani halka Johnson uu sheegayo inuu Ajin wax lagu ku lahayn laakiin sarkaalkan uu doonayo inuu dush ka saaro laakiin Jay wuxuu ku adkaysanayaa inuu Ajin la kulmo oo doonayo si allaale sidii uu doonayo inuu caawiyo weligiis inuu rajeynayo inuu meel ugu soo baxo gabadhan si uu caawiyo markaas ayuu labadooda kulan siinayaa markay kulmaan waxay ka codsanaysaa in Ingag inuu baaritaan u sameeyo kadibna baaritaan ay ku sameeynaya ayadiis buuq qoor ay leedahay inuu keenaya halkaas ay waxna ka ogaaysaa dhammaan informationkiisa inuu asaga yar waalidiintiisa ay gariyoodeen walaalkiis ka yarna ayadiis ay soo korisay ayadiisna aad u jecel yahay wax walba iyada darteed u sameeyo kadibna qorshe cusub ay bilaabaysaa qorshahaas oo ninkan sidii ku soo xargelin lahayd subaxdii xigtay waxay tagaysaa tamirka ayadiis ay tagi jirtay ayadoo markaan doonaysa ayadii inay sabaati ka diyaarsato meeshaas aynu ku kulmayaan isla habeenkii hayaan oo guri u baahneed ayay guri u raadinaysaa ayada meesha degneed agteeda wayna soo dejinaysaa maalintii xigtay ayay guriga u imaanaysaa kadibna ayadii iyo guriga gargaraacaysaa ayadoo cunto soo dhaweyn ah u geynayso isla markaas ayadii markuu weydiisan xilada gabar saaxiibteeda inta degan ayadii ay ku dhahaysaa adiga soo meehan gabadhii tambarka imaanaysay markaas ay ku leedahay waa aniga haddana meeshan gabar saaxiibteeda degan ayaa meesha u imid isla markii ayadii ayaa cashar ku casuumayso koondhahays guriga soo gal wayna soo galaysaa Ajin markaan qorsheeda uu hirgalay miiskii cashada markay kor fadhiistaan ayay jilninkeeda halkeed ka sii wadaysaa oo oysiinaysaa ayadii markaas wiilkeeda ayay wacaysaa Ingag waxaana u malaysaa gabar fiican inay u hesho wiilkeeda ayadoo qorsheedu yahay inay isbarto labadooda laakiin Ingag markuu soo gaaro maadaama gabadhan uu aad uga caraysan yahay isla markiina uu bilaabay inuu qabto kadibna banaanka u jiido markaas ay ku leeyahay ayadii ayaa qorshe u dagaysaa soo maahan dhanka ayadii ayaa soo maraysaa tani wax ku socomaysa waa ina banaanka u baxdaa dambana ayadii agteeda ayaan kugu arkeen halka Ajin ay ku andacoonayso si kama inay ayadiis kula kulantay sidoo kale ay waxba ka ogeyn in ayadiis ahayd sidoo kale Ajin way fahansantahay meelaha uu ka jilcan yahay Ingag kadibna waxay bilaabaysaa inay farda baxdo iyadoo ku dhahayso dadka dhammaan way iska fogeynaysaa adigoo nafsadaada qaabayso dambiyana gelina dush iska saarayso waxayna la socotay sidoo saaxiibkiisa basku ugu wareegay inuu ilo waqti xaadirkan qalad u arko markuu fanka ku soo biiray kadibna way isaga soo tagaysaa ayadoo markaa ka taabatay meeshuu ka jilcanaa Johnson markaa uu iska fahansan yahay sababta ninkan gabadhan uu gaadgaadayso oo nadaysan in la saaxiibto qorshaheedu uu yahay inay kaliya horumar ku gaarto jaran ka dhigato kadibna Ajin fiidiyowga waxay arkaysaa markuu ku soo tagay kadib gaarigiisa uu ku ooyay waxayna halka ka dareemaysaa qorshaheedu inuu hirgalay meel fiican ay ka taabo maalintii xigta caawihiisa ay lacag siinaysaa ila luushiisa kadibna jadwalka ayuu u bedelayaa wuxuuna la kulansiinayaa saaxiibkiisa hore markay wada kulmaan ayuu wuxuu u sheegayaa culayska uu isku hayo inuu iska daayo maadaama waqtiga booskiisa isla bedelay bastada uu cunay ogaay in loos ku jiro asigana inuu u sheegin oo ogaay sida darteed maadaama uu nacay mar walba stage inuu ka hayso doonayay inuu ka nasto sida darteed ku talagal uu cunay wax qaladan oo asiga ku leeyahay intaasoo sanana qalad uu dush iska saaray waxba ka leeyahay laakiin Ingag uu xanaaqaya kadibna wuxuu bilaabay inuu feero maadaama intaasoo sano oo ninkan ku ciqaabay kadibna ka qariyay inuu ogaa isla markaas ayuu ninka saaxiibkiisa wuxuu u sheegay marna inuu guursarabo gabadha jecel ee Ajin liirana ay u timid ee ka codsatay inay caawiyo maadaama ay aad kaaga walwalayso culayska inaad dusha iska saartan iyada ay sheegtay uu ku leeyahay markaas ayuu xusuus xasuusanay markuu uu sheekeynay gabadhaasna aad ay kaaga taxdiraysa ayuu ku leeyahay Ingagna wuxuu leeyahay sidii noloshiisa gabadhan u soo faragashanayso isla markaana Mira ayuu u maanaya asigoo ku dhahay gabadhan darta ayaa ugu shaqaysay haddana farahayga ay soo gashay mana doonayaan saac laga bilaabo in gabadhan isla joogno waxay ku jirtana ku la hadama doonayo isla markaas ay kamariga wuxuu ku dhibay warbixin in Lina iyo Ingag xiriirkooda hore u dhamaaday haddana ay kaliya yihiin dad isla shaqeeyo arrinkan aad ugu careysiinay Lina isla markaas waxaan arkaynaa sarkaalkii back ahaa oo saldhigga booliska soo baxay isla markiina waxa afduubanayo Johnson kadibna meel banaan ay geenayaan waxayna tusinayaan gabadhiisa sawirkeeda waxayna ku leeyahay gabadhaada haddaba daraago ay waxay ku isticmaashay Mareykanka cadeen badan ayaan ku haynaa kadibna dawladda Mareykanka ay u gudbinayaan booliska meeshaas ayaan ku fadeexay doonaa haddii afaaraha ka bixi weysay Ajin ninkan sidaan ay rakaatu ugu qabteen isla markiina wuxuu soo caawiyay wariyihii Braziliga ahaa ee Lina la shaqeynayay wuxuuna u sheegay wax cadeen saac laga bilaabo inuu hayn gabadhaas afaaraheeda ka baxo wax kiisa gabadhaas lagu hayn in jirin isla markiina wariyihii Braziliga wuxuu tagay Lina wuxuuna u sheegay gabadhan Ajin in gabadh loo dhawaa karin inay ahayn qof ciyaar loo habay karin inay ahayn sarkaalkii booliskana asigoo baqaanaya uu soo wacay markaas ay ku leedahay baqbaq meesha imaan maadaama lacag fadal badan ay iga qaadatay aniga hawshan doona waa inay qabataa
dhan kale Jay wuxuu ogaanayaa in Lina ay daba dhigatay gabadhan Ajin wuxuu la yaabay gabadhan qof walba wax daba dhigay wuxuu ogaanayaa wariyii Baraasiga waxyaabaha xun oo ka qori jiray Ajin inay ka dambeey jirtay Lina halka Lina waxyaabo fiican oo ka qori jiray Ajin marka diiradda waxay saaraysaa sidii ku soo xirigelin leed Ingang marka waxaan arkaynaa iyadoo ayayda la kulmayso ayaydan marka waxay doonaysaa inay ogaato sababtay habeenkaas u oysa Ajin marka waxay u sheegaysaa inay soo xasuusto hooyadeeda dhimatay sida daradeed ay oysay raashinkiisana ay aad u jecleed hooyadeed ay sii jirtay ayaydan sidoo kale gabadheeda geeriyootay ayaa raashinka jeclaa jirtay tan oo ayayda taabanayso Ajin marka waxay ku guuleysatay ayayda maskaxdeeda inay degto marka waxaan arkaynaa Ingang oo gurigiisa iska joogo fiidiyoyada Ajin fiirsanayo kadibna xasuusan caadihin ayuu galayaa marka waxaan arkaynaa Ajin oo gurigiisa iska fadhiyo kadibna masjid soo dhacayo aad ayaan ugu farxaysaa masjidka maadaama uu cadeen u yahay Ingang inuu sarqadeeda ku soo dhacay hore loo yiri sarnaagad laga masal gaaro intaana waa iska kafta markaas ay guriga waxa uu imaanay J.O. kadibna waxay bilaabaysaa J.O. sidoo kale inay niyadiisa degto waxayna weydiinaysaa walaalkiisa inay weli kulmaan wuxuu sheegay inuu ku si fiican u kulmo kadibna waxay ku leedahay dilaa inaad tadarteed iyo kaagu dhumanaya dilkaas asiga dartiisa ayaa u gashay walaal adiga camal haday ahaan haysa laha boqolaal mar ayaa nafsadeeda u hurlaayay ku leedahay ayadoo niyada ugu dhisayso isla markaas wuxuu ku leeyahay sidaan guriga igu muwacin ee danta ay leedahay maxay tahay kadibna isxaan ay sameeyay ku leedahay waxayna ku amraysaa Ingang inuu ka soo daahi maadaama Ingang message uu soo dir inuu markii ugu dambeysay u ka raali geliyo kadibna hadda maqaayad ay ku kulmaan ayna doonayso maqaayadaas inuu ka soo daaho si culays kale dusha iska sii saaro isla markaana hawsha ayuu bilaabayaa wadada soo socday asagoo wadada soo maraya uu shil galayaa asigoo sida meesha ugu daahinayo laakiin ugu dambeyn taxi ayuu soo qaadanaya asiga haddaba Ajin waa gabar calculationkeeda ku dheerayso waxa la waxay qorshe u degtay isku xisaabiso ugu dambeyn maqaayad agteeda ayuu soo gaarayaa taxi ayuu soo deganaya asigoo soo cararaya xaggeeda ayadana maqaayada ay ka soo tagaysaa iyadoo iska dhigaysa in laga soo daaha banaanka ayna ku kulmayaan ugu dambeyn la markaasna waxaa moodaa in isku soo dhawaanaya ugu dambeyn uu shuminaya dhan kale Junsiyo iyo Lina oo isla cabayay Junsiyo wuxuu maqlayaa niman absana oo Ajin sawirkeeda eraya oo jeclaysan ku dhahay dabadeed intuu soo kacay wuxuu bilaabayaa nimanka inuu la dagaalamo laakiin maxay ku talaasiga bagay balqad laga tumaa halka wariyihii Baraasiga ay la shaqeynayay Lina oo sawirka qaadanayo Ajin iyo Ingang oo shuminayaan Lina Junsiyo ay u imaanaysaa maadaama ay aad u sarfaysan tahay intuu soo wado ayuu qolka gaarigiisa gelinayaa isla markaas ayaa taleefankeeda soo dhacayo waxaana soo wacay wariyihii Baraasiga ee barnaamijkan u hayay una sheegi rabay inuu sawir ka qaaday kadibna uu ka qabanaya hadalkiisa ayuu dhageysanayaa isla markaas Junsiyo Ajin ayuu la socodsiinaya arrinkani wariyahan iyo Lina waa ilma adeer isla markaas ay madaxii kambaniga Mira arrinka maqlayso Ajin ay la fadhiisanaysaa waxayna kula talinaysaa inay xiriirkan joojiso maadaama waqti xaadirkan aan la joogo waqti xiriir samayso arrinka hadduu soo ifbax shaqadeeda dhaawac u geysan karto dhibaatana u keeni karto laakiin Ajin wax weel ma hayo isla markiina waxay ku leedahay wariyahaas wax la kulmayaan in Allah wada hadlayo wuxuu doon u sameeynaa waxba ka cabsan Mirna markaa way iska yaaban tahay isla markiina waxay la kulmaysaa Ajin wariyihii wuxuu u sheegay sawir halis inuu ka hayo haddii uu sawirkan soo bandhigo article-na uu ka diyaariyo iyadii Ingang inay dhibaato weyn ku noqon doonto maadaama Ingang asigii iyo Lina xiriirkooda mardhow u dhamaaday isla markiina gabadhan uu ku qabsado laakiin Ajin waxba ka walaasano oo sawir kale ayayna sii siinaysaa waxayna ku leedahay hadda soo daabac maadaama ay walba xiriirkan qorshaheeda uu ahaa wariyahan inuu soo bandhigana qorshaheeda uu ka mid yahaba ciyaarteedana uu ku jiray isla markaasna wariyihii arrinka uu soo daabacaya sheekadana waxay noqonaysaa sheeko viral ah taageerihii aktaradana way ku kala qaybsamayaan qayb ayaga la jira iyo qayb ka soo horjeesanaya ay noqonayaan sheekadoodan sheeko aad loo bubuuniyay ay isku bedelaysaa isla markaas ay arkayna J.O. oo la fadhiyayaan kadibna sheeko ayuu qabanaya ugu dambeyn waxay u sheegaysaa Lina inay iyada darteed dambi dusha isaga saarto shil ay geysatana iyada dusha iska saar ayadoo igaalinayso magaceeda arrinkan si hoose iyo fiideo uu duubayaya miskiintan hayaan ma la socotin arrinkan dhab ka dambeysay oo Ajin isla markaas ay arkayna fiideoga oo soo dhacayo Lina markay aragto waa argagaxis markaas ay gadaasheeda Ajin ka soo hadlayso isla markiina waxay ka baryaysaa Ajin inay fiideogan faafinin waxay doontaan ay u sameynayso haddii fiideogan faafisanay ay u dhamaanayso professionkeeda jalaanimada laakiin Ajin ayaa ugu jawaabayso haddaba ogowtan bilow kaliya inay tahay waxa ku dhiman ayaa ka sii daran isla markaasna taleefanka ay ka tuurayso markaas ay taleefanka message badan ku soo dhacayaan wayna tusinaysaa balka waran ay leedahay arrinkan barbilow kaliya waay mudooyin oo socon doona marka ay daadaasanayso iga leex ku dhahay maxay ismoodo ay ku leedahay adiga ayaa u kala fiinaa sidaan dhanba u galo jilinda ma soo haweysanaya ku leedahay kadibna way isaga tagaysaa maalintii xigta maskiintii hayaan ay waxay la kulmaysaa Ajin maadaama ay la shaqeynayso isla markaas ay arkay ay weydiinaysaa inay fiideoga aragtay in kale halka Ajin ay ku dhahayso waan kaaga digi jiray arrinkani oo erayada afka ka soo baxay iska ilaal ayaan ku dhihi jiray laakiin saacan wax laga dambeeyo kuma aamini karo maantana waa maalintii ugu dambeysay aan isla shaqeyno halka ayayna ka dareemaysaa in la isticmaalo iyada kadibna banaanka la isaga tuuri rabo Ajin markaa waxaan arkaynaa iyadoo la dabaaldegaysa ayidii dhalashadeeda saaxiibkeeda cusub Ingang iyo walaalkiisa xiriirkooda markaa mid aad u qoto dheer ayuu noqonayaa aad ay isugu soo dhawaanayaan Ajin markaa way ku guuleysatay qorshihii degtay maalinta roogacas ay ku soconaysay kadibna isku kuufinaysay kaasoo ah ninka inay soo gacan geliso kadibna horumar ay samayso laakiin si walba aad maalin iyadoo shaqada ka soo baxday ayaa Junsiyo hooyadiis ka hor imaanaysa kadibna iyadoo xanaaqsan ay u sheegaysaa inay kontraat hesho wiilkeeda uu la galay kambanigani in Ajin ay kala dhacsiisay inay maalgashto kambanigan xifaalta maamada iyo gabadhan ka dhaxayna iyadoo yar ayuu soo bilowday waxaana dib ugu laabanaynaa yaraanteeda waqti xaadirkan
markii aragtay naagta inay cadaadis ku wado banaankan u tuur rabto ayay waxay ku fikirtay meesha ay ka xanuujin karto islaantaani kadibna waxay ku fikirtay inay wiilkeeda kala wareegto ayadoo dabaq iska tuurayso wax dilaan iska dhigayso markii isbitaalka la geeyay canug yariiska uu yahay kor tagan ay arkay buuggeeda sheekada murugalada ay ku qortana hore ayuu u akhriyay sidaas ayay yaraantiisa Johnson ugu la wareegtay ilaa ay haatan ku xukumaysa maskaxdiisa maamadan ciqaab u dhigtay sababtay u soo faragashatan isla maalintaas xaflad ay ka qayb galaysa kadibna sanheeyda caawday isku ahayn iskuulka ay arkayso isla markiina warbixin ay ka diyaarinaysa aad u xun taas social media la isla dhex qaaday laakiin isla markaas teamkii Mira ayaa arrinta dejinayo EJO Mira naaji markii la kulanto waxay leedahay waa kuma qofka ka hafaafinay ku dhahay shaydaan weeyaan markaas ay ku leedahay iskuulka markaan joogo model ayaan ahaa jiray sida darteed cadaabo badan ayaa lahaa ee iska daa waxay ka qaadi karaan ma jiraan Mirna way la yaabantaa gabadhan in adeegeeda isla habeenkaas aajin gurigeeda waxa uu maanayo ayadii idoo ka walwalsan gabadhaani waxayna dareemaysaa inay qandhaysan tahay isla markiina waxay bilaabaysaa inay maraq u karayso kadibna ay siiso si wacan ay inuu taxadiraysa oo weligeed looga taxadirin aajina jecel sidaan nolosheeda loo muujin waxaana moodaa famil sidaan camal haddii ay heli lahayd inay sidaan dhan bahal u naqan lahayn wayna ilmeynaysaa subaxda xigtana aajina ayadii waxay u sheegaysaa baasweedka gurigeeda ayadoo rajaynaysa inay markale usoo laabato jecel sidii camalna ay ka hesho banaanka qabowna ay ku sugan haddii lacal ay u timaado sidii habeenkii banaanka ay ugu sugaysa laakiin si walba ahaata arrin kale ayaa dhacayso oo aan la filanaynin aajin ayaa markaan la kulmaysa booskooda hore Joy oo loo xiray dilka aabaheed laakiin waqti xaadirkan la soo daayay waxaan la yaabantan sida dhaqsida ee loo soo daayay laakiin ninkan wax dhibaato uma qabo aajin mana ku eedeynay dambiga ay dusha ka saartay waxaana moodaa si hoose inuu aad u jeclaa gabadhaani wax walbana diyaar u yahay inuu darteed u maro laakiin aajin la yaab ayuu ku yahay arrinkani Leena markaan waxay bilowday argudashadeeda waxayna markaan la bilowday xiriir John CEO xiriirkoodan official ayaa ka dhigay isla markaa aajin ayaa isku dayay inay John CEO ka celiso gabadhaani xiriirkoodana fashiliso laakiin John CEO ku qanacsan yahay aajin markii waxay dareemaysaa John CEO miskiinka ah sidii rabta ka yara jirtay inuu waqti xaadirkan ahayn uu isbedelay John CEO maadaama dareen gabadhan uu hayo dhankeeda ay u soo dhawaanaya wuxuuna damcaya inuu shumiyo isla markaas ayaa goobta waxa soo gaaraysa Leena xafladda dhalashada aajin ayayna ahayd ingaag ayaan goobtan ku balami Leena idin waxay ku andacoonaysaa in John CEO dartiis halka u timbi si kaman ay u kulmeen afartooda ayagoo yaabanay isla fariisanayaan dhanka ayadii oo sticker raadinaysa ayaa waxay arkaysaa buugii xusuus qorta isla markaasna ingaag ay soo wacaysaa ajina markaan way dareemaysaa inay wax qaldan yihiin maadaama ayada gurigeeda ka soo wactantay isla markiina guriga ay soo aadaysaa inay soo cararaysaa isla markii guriga soo gaartana waxa arkayna ayadii oo janjarada ka soo dhacayso JO John CEO markay soo gaaraan waxay arkaan ayadii oo sakarada meesha taalo isla markaas ayaa ambulance la wacaya isbitaalka loola soo cararaya ayadii markaan dhaqaatiirta ayaa la tacaalaysa halka aajin banaanka ay fadhiday kadibna ducaysanayso laakiin ayadii way geeriyoonaysaa markaan waxa arkayna dugteeda loo iska imaanayo ingaan aad ay u murugaysan yahay halka aajin ay garabkiisa tahay niyadan u dhisayso dugta kadib booliska ayaa waxay bilaabayaan inay su'aalaan aajin weydiiyaan sidee wax u dhaceen markaan waxa arkayna ayadii oo aajin ku qaylinayso dhahaysan wiilkay maalintii maalinta banaanka ku bixinay aad ayaa u xanaaqay waxaana ku kalifin inuu ku soo daba raadso maadaama ay guul ay keed gabar fiican oo maskiin ah laakiin familkeen dham ayaa khiyaantay wiilkii in gabar ku haboonin ayaan kula taliyay isla markii booliska weydiisay sida wax u dhaceen waxay sheegaysaa ayada maadaama ay banaanka ay bisadaha ku qoodi jirto inay maalinkaas u soo baxday inay bisad qoodiso iyadana ay tusto kadibna markii istaag maagtay ay warwareertay kadibna jaranjarada ay ka dhacday sidana wax u dhaceen booliska markaas ay soo wargeliyay ay ku leedahay ingaag walaalkiis markaan wuxuu ogaanayaa in Joy ku lug lahay dhimashada aabaheed Aajin wuxuuna shaki ka qabaa Aajin inay ku lug lahayd iyadana markaas ay Joy weydiinaya sidii wax u dhaceen laakiin walba ay Joy wuxuu ku leeyahay Aajin wax lagu ay ku leedahay aabaheed dhimashadiisa ma jira maadaama markaas aan aad u walwalsanaa ayaa maxkamadda waxaan ka hor sheegay inay wax ku lug ku leedahay anigoo ka cabsanay dambiilo weyn inaan noqdo Aajin hadalkan uu dhahay way maqlaysay geesiga istaagsanay niyadda ayaan u dagaysa markaani maadaama si lama filaan u difaacay Joy noo la socda gabadhan inay baxarka gelis laakiin uu iska cafiyay argusashadiisana cafis ayuu u bedelay wuxuuna sheegay aabaheed aaba fiican oo ahaa lahaa wadadan xun inay raaci lahayn sida darteed nasiib xumo ku dhacday ee dhibaatadan gelisay dhanka wariyihii baraasiga wuxuu doonaya Aajin in dambiyadeeda soo faagfaa wuxuuna la xiriiraya Sunhay asigoo ka doonaya warbixin inay u siiso laakiin way ka gaabsanaysaa maadaama Jay uu u booteeyay dhanka la John CEO wuxuu ka shakisan yahay Aajin inay ayada dishay isla markaasna wuu weydiinayaa laakiin waxay ugu jawaabaysaa inay ayada ay walba tiir hortaagan ahayd haddana ay ka wareegtay dhimashadana problem dhamaada kaliya ay tahay waxayna ka careysantaa sababta ugu shakisan yahay maalinta xigta ingaag ayaa wax la kulmayaan islaan diriskooda ahayd kadibna waxay u sheegaysaa maalinta ayadiis dhimanaysay iyada iyo Aajin inuu muran dhex maray ayadana aad u caraysnay CC camera ay meesha ku xirtan ay jirto haddii uu doonayo wax meesha ka dhacna halkaas uu ka fiirsho kadibna wuxuu weydiisanaa fiidiyowga kamerada laakiin wuxuu ogaanayaa inay dimbaarayaalkii qaateen fiidiyowga si walba ay haatan wax baaritaan ay ku sameeyeen laakiin fiidiyowga JCU ayaa wuxuu u diray JO na JCU ka xanaaqsay maadaama uu aaminsan in Aajin
maalinta xigta waxaa arkayna Ajin oo la kulmaysa directorka ugu weynaa directorada unuga caansanaa Ingang dartiis ayna u baranaysa oo taxadarkan wixii ka dambeeyay Ingang uma baahna Ajin oo dantay ka lahayd way ka gaartay Ingang gabadhan aad u jeclaaday wuxuu qorsheynay inuu guursado laakiin arrimahaas markay meelaha ka maqasho intay u tagto iyadoo xanaaqsan ayaa waxay ku leedahay waqti xaadirkan wax laga bilaabo xiriirkeena meeshaan ayuu ku egyahay wax walba uu sheegana ka yeeli mayso ugu dambeyn waxay u sheegaysaa xiriirkooda inuu ku bilowday buugga iyadiis ay xaday wax walba halkaas ay ka ogaatay sidaasna ay ku soo xirigelisay waqti xaadirkan waxay doonaysay markay ka gaartay ayna u baahnayeen عكس دحلاو بيه laga dhameystan oo xageeda ka yahay ayada inta dhiman korna way ogaatay arrinkan ay ku leedahay qof nuucay ayaan kula naqanayaa marka xiriirkeena ma doonaysa inay sii wado aad ayuu ugu murugoonaya oo iska ooynaya kadibna wuxuu diinay aydiis waxay ku sameysay waxaan u sheegaysaa qof kaliya runta u sheegay nolosheeda weeyaan runta ayaan u sheegay Ingang marka xanaaq meel la tago ayuu leeyahay qof aniga kala bilaan xariis xiriirkeena moodi kartid ay ku leedahay maadaama qof daacad iska tahay Ajin Ingang guriis markay soo tagto ayaa la soo daba raacaya isla markaana jeeyo ayaa isku dayay inuu ka celiyo kadibna geesa ayaa laga soo galay kadibna way garaacayaan maalinta xigta Mira ayaa guriga Ingang tagayso si ay u soo fiiriso waxayna u tagaysaa si uu suulida dhex yaalo oo meyd ah Johnson markan jeeyo ay isbitaal ku soo booqanaya isla markaa uu ogaado dhimashada Ingang Ajin ayuu u maanaya kadibna wuxuu weydiinayaa sababtay u dishay qof walba wadanteeda ay ka gaartana meel xum ay u dambayso laakiin waxay u sheegaysaa dadka kale dhimashada inay waxba ka galin sidii ay tahay sidii u dhaqmaysan asiga uu sidaan dhab ka dambeynaysan isku bedesho Ajin markan nolosheeda nolol mugdi ay galaysaa guriga Ingang ayna ku soo laabanaysaa ayadoo barkadii qubeyska uu isku dilay ay fadhiisanayso una malays Ingang inay la hadlayso waxaana moodaa wiilkan dhimashadiisa inay ka xun tahay si walba aad taageerihii Ingang ayaa weerar soo qaadayo waxaana codsanayaa Ajin in kamani laga cayriyo maadaama Ingang iyada darteed u dhintay Sonhin goobta banaanbax ay joogtay isla markaasna Ajin oo weerar ugu soo qaaday ay badbaadinaysaa guriga in gelinaysaa qorshaheedu waana jaaniskan ay ku heshay Ajin inay ka faa'iideysato isla markaas ay ku leedahay maalintii 10,000 waa inay qortaa haddii kale weerarka ayaa dhankayga ka soo wadaya laakiin Ajin ayaa ku dhahaysa dagaal aad ku guuleysan karin isku bilaabin guriga ayaan ka cayrinaysa waxaan halkan ka ogaanaynaa nin bahal inuu dhax ku hayo Ajin maalinta ay iyada u socotana wadada ku kulmeen sidii manaxdada u tahan uu ka helay kadibna waxaan arkaynaa Mira oo faylkii Ajin siinaysa wariyihii Baraasiga ah waxay ku leedahay hadaba kiis kuma furi karna gabadhan dhimashada aabaheeda laakiin magaciisa sumcadda bulshada ku leedahay ayaan ka dili karnaa nolosheedana waa tan ugu qaalisan wax walba ka haysan taamiya ayuu ku leeyahay kadibna waxay ku leedahay haaf kaliya weeyaan intaan haaf kale marka shaqadaada u bagayaan ku soo dhameystiraya dhanka kale Johnson iyo hooyadiis ayaa waxay u tagaysaa Ajin kadibna jublaha intay dhulka dhigatay waxay ku leedahay karaal naq wax alla waxaan kugu sameeyay laakiin Ajin kama aqbalayso kadibna intay qososhay waxay ku leedahay soo ma sugan inaan ku raali geliyo kaliya hada wiilkaygu u sheegay in jilbaha dhulka uu ku raali geliye kadibna maamada markii si baxaysay ayaa Ajin sida qof waal amal u qoslayso Johnson iyo hooyadiisna way yaabaysa halkan waxaa ka ogaanaynaa maalinta ay iyadu u tagaysaa Ajin inay wax walba u sheegtay inay sidii u ogaatay yihiin qaladkeedana ay qiratay isla markaas ay qaladkeeda qiratay iyadu iska cafinaysaa waxayna go'aansanaysaa sirta Ajin inay qarayso si walba waxaan arkaynaa Johnson oo fiidiyowga CC kamerada raba inuu fiiriyo markaan runta ayuu halkan ka ogaanayaa waxaan arkaynaa iyadoo bisad raashin siinayso kadibna markay istaag maagto intay wararta jarada ka dhacayso Ajin waxay isku dayaysaa inay qabato laakiin kama aysan gaarin fiidiyowgan dhowr mar ay ku ceeshanay maadaama wuxuu moodayay maana wax kale meesha ugu soo baxeen Ajin maalintii isbitaal ku duceysanay ayadii inay badbaado ay doonayso waana qofka kaliya si dhab ay u jeclaatay kana walwalsaneed Johnson markaa uu ku shalaysan oo gabadha ka shakiyo Ajin markaa waxa muddo balaayo dhamaan ay soo haysto ninkii walna indhaha uu ku haayo Mira waxay aad u carooto sidii Ajin noloshiisa ugu burburis Ingang kadibna kontraadi ay Ajin kula jirtay ay kansalaysaa sidoo kale waxay wacaysaa kamariyalka kale iyadoo ugu digaysa inay shaqo siiyaan gabadhaani isla markaas ay Ajin oo caraysan u maanayso Mira oo aad u caraysan ayaa waxay ku leedahay Ajin haddaba sheekada inaan kontraad kaliya kan salam ku dhamaanayso oo waxa ballan ka qaadayana dhulka kula galo mustaqbalkeedana aad bambi'i Ajin waxay ka codsanaysaa sheekada in halkan ku joojiso Ingang dhimashadiisa iyada kaliya ay qalad ku leeyahay iyada ka hor nolol depression oo ku noolaa marka xiriirka la sameeynaysan Mira ay ogeyd in arrinkan oo kala dhici karo ayna ka celin laakiin ay fiirsatay kaliya lacagta ka soo galayso meeshaasi iyada lafteedana daniisa ay tahay laakiin Mira go'aankeeda waa mid kama dambays ah oo Ajin marka in dhulka la gashay ay doonaysa isla markaas ay Ajin waxay ku leedahay xataa igu cilbaax sidees ku qanciya intaas kadibna Mira waxay ku leedahay kaliya waxa ku qancaya dabaqan iska tuurto aad dhimato adigana ciyaartan sida baraajo ku noqoto kadibna isaga soo tagaysa Ajin dhacdadan aad ay ugu caraysan tahay marka waxaan arkaynaa Johnson oo la kulmayo Mira si uu arrinka u dajiyo Ajin ay ka qalayso laakiin Mira waxay ku leedahay gabadhan waa gabar shaydaana mana mudna wax naxariis inaan u sameeyno ee arrinka ku daalin isla markaasna uu soo baxaya kadibna Ajin ayuu la kulmayaa asigoo u sheegay inuu Mira la kulmay laakiin ay doonin Mira inay arrinka joojiso xataa hadduu ugu handada inuu maalgashigiisa dib ugu naqsanayo Joe asna sidoo kale goobta ayuu soo gaaraya Johnson iyo Joe labadooda waxay doonayaan gabadha inay caawiyaan markaani laakiin Johnson ayaa wuxuu ku walwalsan mar alaal markii qof gabadhan soo fargashto inay dhibaato dhacdo qofkaasna dhibaato weyn gaarto halka Joe wax u muuqata kaliya gabadhan farxadeeda isla subaxdii xigta waxaan arkaynaa si lama filaan in lagu xirayo Mira
ayadoo lagu soo eedeynaya musuqmaasuq iyo waxisdabamar in lacag kortorobaan kambaniga dhex marsatay isla markaasna kambaniga dham ayaa waxa lagu bilaabayaa baaritaan shirkadan waxay u muuqataa Ajin qofka farxadda qaado asigana farxadiisa ayaa lumayso John Cena markaa hilmaamay Ajin inuu soo waco asigoo isbitaalka joog maadaama uu gari rabo operation hooyadiis kali ku siinayo wuxuuna u sheegay in waxba walwalin ay sugto operation kadibna uu ma doono John Cena gabadhan iyasan qabiid u noqotay asiga mas'uulka ah maadaama wax walba oo dhibaato ay sameeyso uu ku caawin jiray isla markaas waxa arkayna Ajin oo kambani soo wacayo waxayna u sheegayaan in kontraad la galaan inay doonayaan kambanigan kama cabsanaya xanta magaalada ugu jirto gabadhani mustaqbalkeeda fiican oo ifayaan kambanigan ka dhaxrayna ay ku leeyihiin ayna oo maawsiya kontraad u saxiixano halka Ajin ay khaatib bila ka taagan gabadhii galaaska isla dhigi jireen ay Sunhee waxay bilaawday gabadhan meel ugu dhaqaaqin ee gurigeeda sidii gurigeeda u joogto Ajin markaa uma adkaysan kartay gabadhan dhaqankeeda kadibna waxay ku leeyahay booliisku waa in ay iga baxdaa markaas ay waxay tusinaysaa article-kii Ajin laga qoday kommentiyada xumay dhamaan inay maraq yireen hal marna la waayay meel ay ka baxeen markaas ay waxay weydiinaysaa in nolosheeda kaliya ay ku soo koobtay inay magaceeda raadis kaliya iyo in kale halka Sunhee ay dhahayso nolol maalmeedkiga ay kamid tahay in magaceeda internet ka raadiyo haddii xumaan yar laga sheegana commentiga isla markii qofka wad naqdo dhanka kale Jay wuxuu dareemayaa in gaasgaadgaad lagu haa isla markaas xafiiska uga shaqeeyo uu laabanaya ninka la shaqeynaayo uu weydiinayaa taariikhda gaariga maalinka soo dabraaca uu sheegay inuu soo ogaaday qof uu yahay laakiin ninka wuxuu sheegay taariikhda fayga inay tahay Jay lama socdo sheekadiisa dhammaan la dhageysto hay doohiyiguna miiska hoostiisa device u gashtay wuxuuna wacay John Cena asigoo doonaya arrinkan inuu u sheego wayna ballamaya ugu dambeyn Ajin markaan kambaniga ay imaanaysa si kontraad u saxiixdo kontraadda markay saxiixdana ninkii waraysiga ka qaadaya wuxuu weydiinaya doohiyog iyo idii xiriirka ka dhaxeeyo laakiin idii doohiyog ma garanayso wuxuuna ku leeyahay ninkan uu bushkareeyay arrinkan inaan kugu sameeyno oo xiriir kula sameeyno waa asiga kontraaddan ka dambeeyay halkan ay ka dareemaysaa waxaan dham doohiyog inuu ka dambeeyay meera xiritaankeeda iyo kambanigeeda wax lagu soo eedeeyay ninkana waa boss weyn oo awood dhaaf haysto isla markaasna xaqiisa ay soo aadaysaa waxaan u maasay asigoo shirka ku jiro laakiin lama socdo idii waxay faraha la galayso doohiyog isla markii uu sheegayo inuu caawiyo maadaama muddo uu indhaha ku hay sida uu dagaalamaysa inay isbadbaadisan oo aad uga helay taariikhdeeda ilaa yaraanteeda inuu ogahay uu sheegaya wayna la yaabaysaa isla markaasna waxay ku balamayn in dib u kulmaan waana ku soo wacaya ay ku leedahay dhacdadaas kadib waxa arkeenaa doohiyog caawihiisa oo maahay kadibna uu keenay faylkii kaasoo miira gacanteeda ku jiray laakiin marka ayada la soo wareegeen wuxuuna ku leeyahay Ajin wax ku saabsan ayaan ka tirtirayaa soo maaha doohiyogna wuxuu leeyahay ka tirtir laakiin problemka jira ay JO iyo John Cena ay u sheegaya markaas ay ku leeyahay JO waana ka takhalusnaa maxaa yeelay arrinkan ayuu qasi karaa markaan waxaan arkaynaa Mira iyo gabadha gacan yaradeeda isla joogaan Mira ayaan sheegaysaa arrinkan dham Ajin inay ka dambayso booliiskana caddeyn badan ay gacmaha ku hayaan iyada kaliya ay kala furi karto qof weyn oo caawinayo oo awood xad dhaaf ah haysto isla markaas gabadha gacan yaradeeda waa soo baxaysaa waxaan la kulmaysaa Ajin ayadoo markaan ka baryaysa inay badbaadiso Mira laakiin Ajin ayaa ku leedahay Mira iyada ay daba socotay laakiin aniga ma daba socon waxayna u dhahday markii ugu dambeysay waa inay istoortay oo dabaq iska soo tuurtay isdishaa sababta hadda uu caawinayo maxay tahay kadibna gabadhan jilbaha iyo dhulka dhiganaysa iyadoo baryayso laakiin warkeeda dhageysanaysa way ka tagaysaa waxayna u sheegay hal kale heen Mira waa inay isdishaa ayadoo ugu dambeyn sida ku dhahayso arrinkan dhan markuu dhacayna doohiyo kor ayuu ku fiirsanayay asigoo ku raaxaysanayo ninkana dadka problem ku jiro way ugu baxdaa dhanka kale Jay iyo John Cena oo kulmayo qatar ayay ku jiraan markaani isla markaasna albaabka inta lagu xiro ayaa gaas lagu soo furaya bisiin lagu soo shubaya meesha ku jiraan halka Ajin la kulmayso doohiyogna uu sheegay idii darteed inuu wax walba u sameey karo nolosheedii hore wixii dhibaato ku ahay dhammaan uu tirtirayo oo masaxayo diyaarna uu yahay nolol cusub ay ku raaxaysato inuu bilaabo laakiin shuruuddu wato waa in asiga guursataa oo ay xaaskiisa noqotaa Jay iyo John Cena inay wax qaldan yihiin dareemayaan kadibna way soo baxayaan waxayna arkay albaabka in lagu xiray halka Jay gacanta ka gubanaya intuu furmaagay si uu gaaska ugu qarxina dira daaqada ay ka soo boodayaan inta jibiyaan miraayada Ajin waxay ka ogaanaysaa doohiyog dalabka uu soo jeediyay inuu guursado ayana ka ogolaanaysa laakiin kama waraysan ninkan inuu jecel yahay nagaha u arooso inuu waalo halka John Cena uu bilaabay inuu soo waco Ajin si uu xaaladeeda u ogaado laakiin taleefankeeda ma helayo isla markaasna uu shakiinaya isla markiina la soo wacay kadibna waxa loo sheegay awogiis inuu isbitaalka yaalo isbitaalka inuu cararaya isbitaalka markuu tagana wuxuu tagayaa awogiis oo gariyooday taasida awogiis marka la qabanaya hooyadiis ayaa goobta imaanayso ayadoo markaa rajeynaysa in awoohan lacag ka dhaxlayso kadibna waxay bilaabaysaa in meesha cabitaan isku daldasho markaas ayaa loo sheegay awoohan inuu waxba lacag ugu tagin iyada wax xiriir ka dhaxeeyay inay jirin sabab lacag ugu tagay meesha aaliin wiilkeeda kaliya lacag ugu tagay isla markaas iyadoo caraysan ay qaylinaysaa waxayna ku leedahay wiilkan xantii asiga ma dhalin oo wiilkiisa wiil oo dhalmo iyo u malaya arkaan John Cena uu maqlaya wuxuuna halkan ka ogaanaya hooyadiis inay ciidan u qarisay asiga John Cena hooyadiis qof xun inay tahay u ogaa laakiin mar walba wuxuu ku fikir jiray duruufaha ku kalifeen waxaan ay sameynayso laakiin markaan dhaawac weyn ay u geysatay dadka hortiisa inay ku dhaawacday waxayna u sheegaysaa Ajin inay ogayd iyadoo yar ayna ogaatay laakiin wuxuu sheegay Ajin in kasta ay ogaatay haddana way iga qaris oo ma doonin wax dhibaato inay qalbigayga gaaraan dhanka kale Sunhee waxay qaadanaysaa boorsooyin Ajin ayana ka xadaysaa si ay u gadato isla markii dukaanka tagtay iyadoo la gortoomaysa ayaa booliis imaanaya goobta waan laga xirayaa isla markaasna Ajin ay booliisku wacayaan wayna u sheegaysaa inay iyada leedahay hal iska soo daayeen leedahay la soo fasaxaya habeenkii soo dhaxaya Sunhee qolka Ajin soo galaysa kadibna waxay leedahay raalligin waa inaan ka bixisaa nolosheeda maadaama aababaysay in nolosha aabahay haddii aan sidaan sameey laheena
waqti xaadirkan nolosha nolol ka duwan ayaa ku noolaan lahaa laakiin ajin ayaa ku jawaabaysa inay wax qalad ah ay gelin laakiin qofka qaladka gala oo wuxuu sameynayay wax kale aan kala garanin ayada ay ahayd kaliya iyadana weerar celis ay samaysay waxaana taas ugu yeeli karaa ay ku leedahay nasiib darro ayaa ku haleeshay Johnson markaa wuxuu qorsheynaya ajin inuu la kulmo telefoon walba ka wacna marka qabanayso laakiin markaa ayuu wuxuu kula kulmayaa wiishka isla markaasna wuxuu ku qabsayaa sababta telefoonka uga qabalaadahay maadaama markii ugu dambeysay asigu dhahay isugu weysay wuxuuna sidoo kale weydiiyaa sababta uu qarisay inuu aabihiisa saxda ah aabihiisa laakiin waxay u jawaabaysaa sababtan kaga qariyo waa sidaan oo murugo ay isku abuur lahayd nolosha fiicneed oo qurxooneed ku nooleedna waa ka soo bixi lahayd sida daraaddeed anigu adiga kugu danaynaya ayaan kaa qariyay ay ku leedahay Ajin iyo Johnson waqti xaadirkan waxa uu baleysay xiriirkooda in laba gees kala marayo ay halkan ku kala leexanayaan maadaama Ajin ay guursatay nin hantiila ah xafladda weyn ee arooskeeda loo qabanqaabiyo TV-da dhamay laga soo deenayaa marka waxaan arkaynaa Jay oo TV ka fiirsana isla markaas ayaan ninka booskiisa wuxuu ku leeyahay gabadhan iska helmaa waqti xaadirkan isku level ma hidi nin taajir ayna guursatay ayuu ku leeyahay halka Johnson oo Lena oo la kulmaayo garoonkan oo kula kulmaayo maadaama ay iska baxayso ayadoo macsalaamayso waxayna u sheegaysaa Ajin inuu ka fogaado nolol fiican oo degan oo iska noolaado maadaama gabadhaas ay dab tahay damin la iska ilaaliyo Ajin marka waxaan arkaynaa iyadoo amaanas guriga weyn ee qasriga ah oo ninkeeda lahaa sidii guriga u dhaxweeyay ugu dambeyn waxay tagaysaa qol oo xiraan kadibna gabadhii madaxa shaqaalaha ay ayaa ka diidayso qolka inay gasho una sheegaysa ninkeeda naagtii hore oo qaba xatay migi inay geli jireen hadii doonaysa inay gasho ninkeeda ay waraysato habeenkii Ajin iyo saaxiibkeed markay wada cashaynayaan ay weydiinaysaa inay qolkaas rabto inay gasho sababtana markuu weydiiyana waxay ku leedahay waxaan doonayaa meel jawi degan ah oo aan tababar ku sii qaato oo jiliinkayga ah markaas uu ku leeyahay iska dhaaf aniga ayaan kula jilaayo kadibna wuxuu bilaabay inuu sheekeeyo naagtiisa hore wuxuuna ku leeyahay saaxiibtii hore wax walba ayaan siiyay laakiin in kastoo saas sameeyay kuma qanacsaneen oo aniga ayay mar walba eed dusha iga saari jirtay sida daraaddeed waa u adkaysa waan iska furay ugu dambeynna waxaan u diray isbitaalka waalida soo hadiyad fiican maan siinin ayuu ku leeyahay Ajin markaa indha ayaa ka soo haray oo waxay la kulantay qof iyada ka baahalsan waa inay yaaban tahay ugu dambeyn Ajin waxay noqonaysaa aktarada ugu fiican waxay noqonaysaa xidigad wariyaalka badankood waxay bilaabayaan inay daba raacaan sharafteeda hore iyo magaceeda hore waa soo naqsatay markaa Ajin waxay la kulmaysaa J.O. kadibna waxay weydiisanaysaa inuu baaritaan ku sameeyo saaxiibkeeda wax alaala wuxuu ka heli karno uu soo aruuriyo laakiin Ajin waxay ka warqabeen in laga gacan raray waxay meesha ku sheegaysan dhammaan la dhageysto waxaana meesha mikrofoon ku qarsa Diyo hadalkooda dhamna meesha ayuu ku maqlayaa habeen kasta Ajin waxa loo keenaa shaah markaan shaah ay loo keenayaa waxayna ku leedahay naagta shaqada waa inay cabta waana waajib shaah inay cabta Ajin markaa way ka shaqaysan tahay in darooga lagu qorinayo shaaha isla markiina way soo qaadaysaa waan iska daadinaysa kadibna waxay iska dhigaysaa wax hurdaayo oo daroogada qaaday ayadoo kaga go'lay in shakakeeda xaqiijiso markaas ayaa Doohiyog imaanay kadibna uu cabaar ayuu wajigeeda fiirinay tan oo shakakeeda dhab ka dhigayo maalinta xigta Ajin waxay ogaanaysaa meel walba kaamirooyin qarsan inuu galiyo ninkaani dhaqdhaqaaq walba guriga ku sameeysan oo la socdo tan oo stress trauma ku furayso ayadana soo xasuunaysa rafaadka abaheed ay ka martay iyo markuu ku dhahay waxa doonto wiliga heli maysid sida doontana wax u shaqeeyay si walba ahaataba Sanhee ayaa sidii hooska u daba dhigatay ayadoo markaan shaqaalihii isku soo qarisay kadibna qasriga Ajin ay joogto ku soo dhuumatay Ajin markaa iska nasanaysa ay halkaada imaanaysa kadibna midii soo baxsanaysa ayadoo qorshaheedu yahay inay ka takhalusto ay disho Sanhee qorshaheedu wuxuu ahaa Ajin gurigeeda in iska joogto inay fiirsato sidii u baaba'ayso nolosheedu burburaysan marqaatay ka naq laakiin sheekadu way isbedeshay oo Ajin hanti iyo magac ayaa u sii saaciday Sanhee arrinka way adkaysan waysa waxayna doonaysaa markaa inay ka takhalusto laakiin Ajin way iska celinaysaa ugu dambeynna midii iyada wadata iyo wajiga u qalaysaa Doohiyog oo meesha soo gaarana buu fiirsanayaa siday wax u dhacayaan Sanhee markaa khasaare kale ay kala kulantay oo wax garaafay isdhays laakiin iyada la garaafay dhacdaas kadib Doohiyog uu soo baxaya kadibna Ajin ayuu u imaanaya kadibna uu qaadaya asagoo isbitaal geynayo markaa waxaan arkaynaa iyadoo isbitaalka soo naaxayso isla markaasna qofka ag joogay u malaysay Johnson halka uu Doohiyog u yahay isla markaasna wuxuu sheegay inay nasato intaas kadib warbaahinta ayaa tabanaysa dhacdadii J.O. ayaan arkay aad ayuu ugu caroonaya wuxuuna isweydiinayaa sababta Sanhee gabadhan u daba dhigatay inay doonayso inay u takhalusto sidoo kale waxaan arkaynaa warihii Brazil oo podcast meel ay samaystay kadibna ku jixjeexay Ajin nolosheedii hore iyo waxyaabihii ay soo samaysay tan kale Doohiyog wuxuu soo wacay Ajin kadibna wuxuu u sheegayaa inay iska nasato maadaama jiliinka mar dhow ay bilaabayso wuxuuna sidoo kale u raacsiinaya inay ka walwaleen Sanhee maadaama uu geeyay isbitaal kaasoo isbitaalka waalida markaan J.O. baaritaan iyo geeskiisa ka bilaabay kadibna saaxiibkiisa ayuu u tagaya asigoo weydiinaya arrimahani saaxiibkiisa ayaan u sheegaya Sanhee in isbitaal la geeyay lana geeyay isbitaalka waalida ee Doohiyog xaaskiisa hore la geeyay Doohiyog inuu leeyahay isbitaalka xaaskiisa hore meel jaan cirib dhigta la yahay kadibna wuxuu eegaya CC camera albaabka isbitaalka wuxuuna u arkayaa ninkii ayaan hore soo weerarayay oo isbitaalka ka soo baxay asigoo isweydiinaya wuxuu meesha ka qabanaya ninkan asigoo iska fahmay markaan ninka u shaqeeyo dhanka kale Johnson wuxuu la kulmayaa hooyadiis asigoo waqti la qaadanayo ayadoo markaan si tolayo noloshiisa ku kadibna waxay ka codsanaysaa maanta inay isla soo dukaameystaan ayagoo markaan soo raacayo ayadoo markaan ku dhahaysay boorsooyinka kala door asigana wuxuu ku leeyahay labadooda way kugu fiican yihiin kadibna gabadhii kaashirka ayaa ku dhahaysay wiil iyo hooyadiis isku fiican ayaa tihiin markay dukaanka soo baxayaan ayaa Johnson iyo hooyadiis ku dhahaysay wiil fiican ayaa inta naqatay kadibna nin ayaa ka hor imaanaya asigoo u sheegaya inuu muddo raadinayo inuu la kulmo laakiin Johnson wuxuu sheegay inuu hooyadiis la socdo waqti xadirkan oo qof la kulmi kari markuu ku adkaysana hooyadiis ayaa ogolaanaysa inuu la kulmo kadibna meel ay isla fadhiisanayaan ninkii ayaa isla markii buugiis soo bixinayo wuxuuna ku leeyahay buugaada ayaa muddo akhrinayay waxaan la yaab wax walba ku qoran way ku dhacaan Ajin sidee waxaan ku dhacayaan xataa Sanhee inay isku dayso gabadhan inay disho ku qoranta ayuu ku leeyahay halka Johnson uu ku dhahay ma garanayna sidee wax u dhacayaan wariyahana wuxuu leeyahay dhacdooyinka ku qoran inay si dhab u dhacayaan Ajin wuxuuna ku leeyahay Ajin waxay ku dhici doonaan miyaa ogta halka Johnson uu ku jawaabay inay waxaan yihiin fictional buug in la iska
qora uu yahay isla markaas Junsi wuxuu caajay oo asigu weydiinaya wax ku dhacay Ajin halka Jay uu ku leeyahay hadda ma inaha soo kala qaaday qoraal far badan ayaa laga qoray maad akhrisid ayuu ku leeyahay marka waxaan arkaynaa Ajin oo gurigeeda iska joogto kadibna akhrinaysa comment ku dhigayaalka waxay ka sheegayaan kadibna way soo bixisay waxay la kulmaysaa meyd guriga kadibna waxay weydiinaysaa inay u baahan tahay shaah markaas ay sidoo kale waxay arkaysaa gabadhii shaqaalada oo wada shaqaysanayaan waxayna isleedahay adiga iyo ku xamanayaan kadibna shaah ayaa loo keenayaa isla markaas nooc kale ay naqanaysaa waxayna ka soo naxaysaa iyadoo qol kale joogto oo na cabsan waxayna la yaabantay sidii halkan ku timid waxayna sidoo kale arkaysaa alaab badan in burbursantahay meesha taalo isla markaas ay waxaysaa qaybta sare waxayna arkaysaa qolkii xirnaa lama geli karo ilaahay u furaan markaas ay Ajin u imaanaysaa waxayna ku leedahay maxaa qaldan oo sidaan dham u samaysay Ajin waxay u sheegaysaa inay garanaynin wax sida u dhaceen ayna xasuusanin haddaba dib ayaa u naqlinaa sida wax u dhaceen Ajin markay maqasho gabadhaha hadlaayo isla markaas lagu kacay kadibna waxay bilowday inay la dagaasho hub ayana soo qaadanaysaa ayadoo alaab jibinaysa kadibna qolka soo aadayso qolka ayana furaysaa ayadoo albaabka jibinaysa markaas ayay waxay ku arkaysaa Dohyuk iyo saaxiibtiisa hore sawirradooda badan inuu ayaa markaan ku dhahayso ma fiican tahay isbitaal miyaan ku wadnaa kadibna Ajin waxay naqsan ay ku soo jeesanaysaa kuleeyay sababtaas isbitaalku aaday maxay tahay maxay qaldan soo hore kuma sheegin Dohyuk saaxiibtiisa hore amal maahi aniga hana u sheegin Dohyuk wax meeshan ka dhacay ay ku leedahay kadibna qolka iska tagaysaa iyadoo cabitaan isku dalayso Dohyuk ayaa soo wacayo laakiin kama qabanaysa taleefanka dabadeedna way soo baxaysaa iyadoo saadaysa stuudiyaha filimka lagu duubo kadibna Jay ayaa dhex kula kulmaya asigoo meel geenayo waxayna weydiinaysaa sababta halka u joog wuxuuna u sheegay inuu halka u joogo inuu ida caawiyo ayadan ay soo wacday laakiin iyada waxay ku leedahay aniga kuma soo wicin mana xasuusan karayaan sidii wax u dhacaya qarow tira badan ayaan isku arkay ay ku leedahay isla markaasna wuxuu u sheegay inuu soo ogaaday Dohyuk xaaskiisa hore isbitaalka u geeyay waqti xadirkan ilaahay gabadhaas meel jaan cirib dhigtay Sanhin sidoo kale isbitaalkaas lagu haayo Sanhi iyo Dohyuk hore u kulmeen waxa ay kugu sameeysan lacag darteed ay u sameeyay markaas ay Ajin waxay ku leedahay intaan midida ku dhufan ka hor waxa ay sheegi rabtay Dohyuk iga sheegi rabtay haddaba waxaan u dhamaan maxay ugu dhacaya joogiyo wuxuu ku leeyahay haddaba ka furani kaani laakiin iyada iga joobayso muddo ayaan arrinta u soo rafaaday kor inaan si aadan maahan inaan hoos u soo degto ma doonayo kadibna wuxuu bilaabay inuu niyad u dajiyo isla habeenkaas Ajin jiradii waalidii ay ku soo degayso kadibna miraayad intay jibisay gacmaha isaga qalaysa Dohyuk nagadaasha ay u taagnaa kadibna intuu soo wado ay gacmaha ka sharateynaya wuxuu weydiinayaa sababtay waxaan u sameynayso wuxuu u sheegay inuu doonayo inay asiga ku tirsanaato laantiisna ay waxba sameey karin isla markaas waxaan arkaynaa Jay iyo Junsi oo kulmayaan Jay iyo Junsi ay u sheegayaan inuu Dohyuk wax dhab ka dambeeyo gabadhana daroogaya wax walba hilmaansiinayo asigoo doonaya inuu maskaxdeeda maamulkuna cayaaro waana ninkaas meel ka sarnaa gabadhana ay ku leeyahay laakiin Junsi markaa uu ku soo horjeesanaya arrinkaani Junsi oo Ajin markaa xageeda uga dhamaatay wuxuu u sheegay cadeen la'aan inuu waxba sameey karin Jay asagoo caraysan ay ku leeyahay wax ma tara ayaa tahay uu isaga tagayaa dhanka kale waxaan arkaynaa Ajin isku diyaariyay inay duubto filimkii laakiin sheekada filimka ayaa loo bedelay sheekadan waxaa looga bilaabay waxa looga dhigay inay bud qaadato kadibna in madaxa uu dhufato waxayna arkaysaa budkii uu dhiig been roob marinayo isla markaasna ay ku adkaanaysaa kadibna banaanka ay u baxaysaa wayna soo laabanaysaa waxay u sheegaysaa inay sameey karto directorka isla markaas ninkii wuxuu noqonayaa aabaheeda markaasna waxay bilaabaysaa inay ku qaraacdo ninkii si xun u qaraacdo ilaa uu directorka sheekada dhab joojiyo Ajin markaa waxay arkaysaa Dohyuk oo meesha agteeda taagan kadibna qoslaayo wuxuuna ku leeyahay si wacan ayaa u jeshay wargeysadii dhammaan arrinka ay soo daabacayaan ayagoo ku sheegay Ajin inay dilka ka sii tagtay asigoo filan la jilaayo markaas ay u ceebaysaa directorka waxayna weydiinaysaa qofka sheekada bedelay waxaan loo sheegay Dohyuk inuu yahay isla markaas way soo baxaysaa xafiiskiisa inay soo aadaysaa Dohyuk si ay ula kulanto kadibna waxaa loo sheegay inuu halka joogo inuu joogo xagga iyo barbaraagta dabaasha isla markaasna xaggiisa ay soo aadaysaa una umaanaysaa ayadoo markaa weydiinaysa sababta uu u bedelo sheekada filimka markaas ay wuxuu ku leeyahay haddaba ma doonin qof kale inuu ku caawiyo qofka caawinta ka helaysa kaliya in aniga naqdo markaas ay intuu lugteeda qabto ayuu ku leeyahay haddaba adiga ma aysiin waxaan kaa doonayay markaas ay ku leedahay maxaa ka wadaa wuxuu sheegayaa xaaskiisa hore inay waxan dhab ay u dulqaadan karin laakiin iyada qof adag ee tahay sidaa daraaddeed wax walba siduu doonaya u socdaan isla markaas ay wuxuu ku leeyahay haddaba waxaan u maleeyaa in lagu ciqaabay oo nolosha lagugu ciqaabay Ajinna ma fahansan wuxuu ka wada ninkaani xabaar kadib ayay waxay soo xasuusanaysaa markay isbitaalka soo naahaysa qofka la joogay inuu ahayn Junsi oo uu ahaa Dohyuk markaasna ay u sheegtay inay dareemayso sida in nolosha lagu ciqaabay isla markaas ay Dohyuk wuxuu ku tuurayaa barakadii waxaana u malaysaa gabadha inay qoosayso isla markaas waxay bilaabaysaa inay soo xasuusto waxyaabihii soo dhaaftay laakiin ugu dambeyn biyaha way ka soo baxaysaa isla markaas Dohyuk wuxuu wacay Junsi isagoo u sheegay xaaskiis mid kamid inay xaalad fiican ku jirin oo imaado u caawiyo markaas ay Junsi carray goobta u soo gaaray Ajin wuxuuna weydiinay inay fiican tahay in kale isla markaas intay soo baday wuxuu ku leeyahay hadda ayaan dareeminaa qashin waqti walbana la iska kaga tuuri karo laakiin sidaa dhacday ma doonayo oo Dohyuk inaan kormar ayaan doonayaa awoodiisa awood ka badan aan yeesho haddaba ma igu caawinaysaa arrinkaasi laakiin Junsi uu ka soo horjeesanay arrinka hadalkaasi oo ma doonayo marnaba gabadha inuu caawiyo kadibna markii suulid soo gashay isla markii waxay soo codsaysay Jay isla markaas ay weydiinaysaa wax ku dhacay codkeeda iyo inay fiican tahay laakiin waxay u sheegaysaa inay fiicneen arrinkan waqti xadirkan uu dulqaaday karin in doonaysa inuu caawiyo markaas ay ku leeyahay wax walba aad doonaysa diyaar ayaan u ahay markaas ay weydiinaysaa sababta ay ugu caawinaysa maxay tahay markaas ay ku dhahay hadaba aniga qof kale oo adduunka ii jooga ma jiro marka adiga ku caawinayna mar walba farxad zaid ayaan dareemaa
waxaana jeclahay in ahaado qof meel kaaga soo bixi karo wax allaala waxa doontan waa weydiisan kartaa aajin oo markaan jawi degan ku jirto ayaa guriga ka soo baxayso isla markaas gabadhii maajin jaradeeda ay weydiinayso shalay wax dhacay ma xasuustaa markaas ay ku leedahay ma garanayo wax dhacay shalay maxaa dhacay maani jaradii ay inta soo boday ku leedahay waxba ma dhicin kadibna waxaa arkaynaa dohyoog iyo iyadoo isla fadhiyo isla markaas ayuu sheegaya inuu safar shaqo aadayo maadaama duubitaanka ugu dambeeyay maanta la duubayna sidaa darteed inuu hambalayo uu yimi laakiin shalay aad ayaa ii aflagaadeynaysa ayuu ku leeyahay halka aajin intay soo boday ku leedahay haddaba taas ma dhici karto aniga lagama yaabo in aan ku afgalagaadeeyo dohyoogna walaa baahan gabadhan sida isku mugeysiinayso markaan dohyoog xogihiisa u soo socdo ayaa JO gaarigiisa mooto ka hor jarayo isla markuu soo degna wuxuu ku leeyahay yaa tahay markaas ayuu difaaci madaxa iska bixinayaa wuxuuna ku leeyahay hadda wejigay fiiri waxaan ahay ninkaan nolosha ku gubi rabtay adigii dohyoogna sirtiina waa haya haddaba bannaanka ayaa keeni doona sirtiina isla markaas ninkii wuxuu soo wacayaa dohyoog asiga uu sheegaya arrinka dhacay iyo khatarta kusoo socoto markaas ayuu sheegaya JO inuu ka takhaluso inuu dilo aajina hortiisa ay fadhiida waxaa dhan way maqlaysa isla markaas ayaan arkaynaa JO oo taagan xafiiskiisa kadibna wuxuu wacaya ninka saaxiibkiisa la shaqaynaya wuxuuna weydiinaya kaamirooyinka dhammaan inuu xiray wuxuu sheegaya inuu kaamirooyinka xiray markaas ayuu kaamirooyinka wuxuu ku arkayaa kooxdii dohyoog soo diray inay dilaan isla markaasna meesha ay soo galayaan wayna ceyrsanayaan cabar sidii u ceyrsanayaan wuxuu geenayaa meel uu talagalay oona hore u diyaarsaday inay meesha tagaan kadibna waxay bilaabayaan inay garaacaan muddo ayuuna iska celinayaa ugu dambeydna wuxuu keenayaa meesha kaamirooyinka ku xirnaayeen waxayna bilaabayaan inay zaa'id u qaraacaan laakiin wuxuu ku kalifayaan inay qartaan qofka soo diray ayna sheegaan dohyoog inuu ka dambeeyey dhan kale waxaa arkaynaa aajin oo jilitaan ku jirto kadibna bud ayay naag madax u gelinaysaa isla sidii aabaheed ugu gelisay ugu dambeyn Johnson uu gurigiisa iska fadho oo fiirsanaya sawirka yaraantiisa ayaa message taleefanka ugu soo dhacayo waana video isla markuu videoga daarna wuxuu arkaa JO oo la garaacayo aajina sidoo kale guriga markay timaado waxay arkaysaa isla videoga soo dhacayadana isla markaasna waxay isku dayaysaa JO inay wacdo laakiin taleefankiisa cidna ka qaban mayso isla markaas suulida ayuu cararaysaa iyadoo oynayso waana iska fahanta nafsadiisa inuu u horo iyada raggii dilayaalka ah isla markii waxay sameynayaan meedkii JO iyo waxay gelinayaan full stop waxayna arkayaan Johnson oo taleefanka soo wacayo laakiin taleefanka ay qaadayaan kadib waxaan arkaynaa Johnson oo soo baxay kadibna uma hay JO saaxiibkiisa isagu weydiinaya sidii wax u dhacayaan isla markaas ninka ayaa wuxuu ku leeyahay haddaba aniga ma ogeyn sidaan dhab inuu dhimanayo oo nafsadiisa gabadhaas u horaayo haddii aan ogaalahayna ma caawin lahayn waan isku day inaan caawiyo laakiin ma caawin karin ayuu ku leeyahay wuxuuna igula ballamay inaan adiga ku siiyo caddayntaani subaxdii xigta waxaa arkaynaa aajin oo kasoo kacaysa hurdada waxayna arkaysaa dohyoog inay sariirta isla jiifeen isla markiina banaanka ay u soo baxaysaa dohyoogna soo daba raacaya markaas ayay ku leeyahay waxaan yar doonaya inaan kuu sheego haddaba mar doonaya mar dambe inay jirkayga taabato markaas ayay ku leeyahay sababta u taabanayn maxay tahay haddaba xaaskayga ayaa tahay haddaba halka hadduu sidaa ahala way fiicnaneed ay ku leedahay aajin laakiin sheekada hadda sidaa ma taagno isla markaasna fiidiyowga ay tusaysaa waxayna ku leedahay caddayntan ayaan ka hayaa marnaba ha isku day inaa igu soo xadgudubto mar kale haddii dhacdana waa garanaysaa wax dhici doono ayadoo soo dhawaanaysa kadib nacan ka shuminaysa kana soo tegayso isla markaas ayaa Johnson soo wacayo wuxuuna weydiinayaa waxay ku samaysay JO markaas ay ku leedahay haddaba runta kuu sheega ma qaadan kartaa caddayn ayaa dohyoog u baahday JO sida ay ugu sameeyey Johnson aad ay ugu caroonaya hadalkaas asigoo ku lahaa haddaba naf ayaa kuu go'day wax walba samaynaysa waa inay halkaa ku joojisaa halka iyadana ku dhahaysa haddaba ma joogsanay JO inaan hore usii socday u dhintay isla markaas Johnson wuxuu soo aadayaa dohyoog asagoo la kulmayo wuxuuna u sheegayaa inuu waxba gaarsiin aaji haddii uu wax gaarsiiyana fiidiyowga caddaynta oo si laftiisa u haayo oo asigana soo fasaxi doono dohyoogna sidaa ugu dhammaan doonto qofka keliya gabadhan joojin karana waa aniga ayuu ku leeyahay haddaba aniga ii daa isla markaas waxaa arkaynaa sawirada yaraantiisa asigoo meel qashana ku tuuraayo dhan kale waxaa arkaynaa aajin oo iskuna diyaarinaysa xafladda lagu dhiibaayay bilada aktarada ugu sarreysa isla markaas Johnson ayaa isku dayay inuu waco laakiin ka qaban mayso isla markaasna wariyihii ayuu wacaya doonaya inuu la kulmo wuxuuna u sheegaya inuu doonayo wax aad u weyn inuu u sheego dhan kale aajin waxay soo gaaraysaa goobta xafladda ka dhacaysay ee roga casa waana meesha sheekada nooga bilaabatay taageerada ay salaamaysaa kadibna gudaha ay u galaysaa dad u tiro badan ayaa kasoo qayb galay isla markaasna meesha ay soo gaaraysaa iyadoo marka lagu dhawaaqayo ku guulaysta inay iyada tahay ugu dambeynna waa la guddoonsiinayaa biladeeda markaas ay waxay bilaabaysaa nolosheeda hore inay ka shakayso ayna ku dhahdo hooyadii qof fiican ayay ahayd haddii ay arki lahayd saacadan horumarkaan aan sameeyana aad ay ugu farxi lahayd inkastoo annagaa iska ogna hooyadeed qof fiican inay ahayn oo ay mas-uul ka tahay gabadhan dhibaatooyinkan ay samaynayso maadaama yaraanteeda waddada fiican ay ka leexisay isla markaas ayaa warbaahinta dhan lagu soo baahinaya taariikhdeeda hore dhammaan waxay shamaysay idoo laga sheekeynaya dadka dhamna oo soo dhacaysa waxaana halkaa qof walba u caddaatay qof aad u xun inay tahay gabadhani hadafkeeda sii ku gaartana wax walba ay u samaynayso qofka sheekadan soo qarxiyana qof kale maahan waa Johnson sixma ayuuna markaan u qayaana dhabarka ayuu ka toogtay iyadana ma filin in arrinka camal dhacayso waraysigana san yahay waa lagu waraysanayaa iyo qof kale marqaati ka ah arrintaani aajina sheekada meesha ka dhacda uma dulqaadan karto ugu dambeynna biladii intee turtay ay cararaysa qof walbana markaan iyada ay indhaha ku haya kadibna waddada ay soo goynaysa Johnson wuxuu dhex fadhi gaari meesha yaallo isla markaana uu ka soo baxaya wana isfiirinayaan dabadeed labada gaariga ay soo wada raacayaan wuxuuna weydiinayaa meesha doonaysa inuu geeyo waxaana ku leedahay nagey meel labadeena kaliya aan joogno oo cid kaloo bini'aadan ayna joogin isla markaasna wuxuu sheegay xawaaraha inay halkaa ku joojiso cid kaloo bini'aadan ay dhibaato u geysanin waan ku jeclahay ayuu ku leeyahay asigoo gacanta qabsanayo maadaama dad badan aan dhibaatayno dunida waa in iskala hajirnaa way ku leeyahay ayadoo markaa ku dhahaysa dacad miyay kaa tahay isla markiina gaariga ayuu boorta ka tuuraya waddada isla markaas tviyada ayaa lagu baahan yahay Johnson inuu geeriyooday halka aajin ay dhaawacantay laakiin jaan iyo cirib meel dhigta la la'yahay
Josie hooyadiis waxay arkaysaa warqad uu ugu tagay warqadii ayayna akhrinaysaa wuxuuna u sheegay inuu cafi doonin xiriir walba lahayn halka uu ku dhamaad xataa wax sawirna ugu tagin albumka ayay eegaysaa wax sawirna way ka weynaysaa markaasi umada kale hadhiibin si nabad isaga noolaa ayuu ku leeyahay isla markaas iyadoo aad u murugaysan ayay soo cararaysaa jaranjaradii ayayna kasoo dhacaysaa markaan waxaan arkaynaa goobta sawir xasuuseedka dadka geeriyooda la geliyo oo sawirka aajan ku jiro isla markaasna qof ayaa u keenaya Fiore oo aan la garanayn halka Dooyo kooxdiisa uu wacayo kuna dhahay si degdeg ah inay aajan u soo heshaan maxay idinka qaldan isla markaas ayuu arkay fiidiyoo laga helay markii baxsanaysay waxaan arkaynaa shilka bacdi aajan inay nooleeyay kadibna isku dayaysay inay meesha ka baxsato cabaar ay rafaadana midi ay soo qaadatay kadibna suunka iska jartay markay meesha ka sii bixaysana Josie uu gacanta ka qabtay asigoo qorshihiisa aanay meesha iskula dhintaan laakiin inta iska fujisay ay ka tagaysaa kadibna buurta markay korto ayay meesha ka soo fiirsanaysaa ilaa uu ka dhinto si baahlimo ayay u soo fiirinaysaa hadaba gabadha labadii wiil oo garbaheed ahaa sida ay ku gariyoodeen laakiin iyada tada leh u muuqat kadibna sida ay ku baxsat oo meel jaan ay cirib dhigtay lama garanayo dramadan halkaan ay ku eg tahay laga yaabo qayb labaad inay mustaqbalka lahaato haddii ay xiiso leed qayb labaad in lahaato war commentiga inuu reeb muuqaalka laagta ayaa laga hilmaamay haddii ay nagu cusub tahay subscribe to noo saar oo gambalada kana furo nabaday iyo drama kale oo kan xiiso badan bye bye